السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو كورس أقون channel iyo korsaqon.com labadaba magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Google Sheets waxaan hore u soo baranay Google Docs oo inoo bedelayay Word-kii sidoo kale waxaan soo baranay Google Slides oo isaguna u dhigmayay PowerPoint iyo presentations-ka lagu diyaarinayay Google Sheets-kana wuxuu inoo bedelayaa Excel-kii Microsoft Excel-kii ama Microsoft Office Excel-kii waxa inoo bedelaya Google Sheets-kan ayaa inoo bedelaya wax lagu diyaarinaya ama lagu maamulaya spreadsheets-kii okay marka kan ayaynu maanta baran doonaa muuqaalkan waxaadna ogaan doontaa ama baran doontaa awoodda uu leeyahay Google Sheets ama si guud ahaaneed software-rada spreadsheets-ka lagu edit karayo ama lagu isticmaalo sida Excel-ka iyo Google Sheets-ka software-radaas awoodda ay leeyihiin waxyaabaad ku qaban karto ayaad maanta markaa baran doontaa marka Google Sheets-kan hadaad barato xataa Excel-ka uu ku fududaanaya hadaad Excel hore u taqaanina kani waa ku fududaanaya waxba kuma kala duwana wax meelo badan bay isaga mid yihiin waliba kan features dheeraad ah buu leeyahay waana ka simbilsan yahay isticmaalka markaad soo furto Google Sheets qaabab kala duwan baad soo furi kartaa waxaad ku soo furi kartaa inaad gasho browser-kaaga aad soo furto marka koobaad then google.com aad gasho markaad Google-ka soo gasho aad halkan Google Apps-kan upgrade-keeda aad click siiso ama button-kan then halkan aad ka doorato Google Sheets halkan ka doorato markaad click siiso uu ku geeyo markaa maxay Google Sheets waxa kale oo samayn kartaa halkan ayaad ku qori kartaa Gmail-kaaga waad geli kartaa markaad Gmail-kaaga gasho waxaad samayn kartaa mar walbana waa qasab inaad haysato Gmail markaad inaad isticmaasho doonaysid software-radan Google Docs-ka iyo Google Sheets-ka iyo Google Slides-ka iyo kuwaas oo dhan okay markaad Gmail-kaaga soo gasho button-kan Google Apps-ka again aad markaa soo furto then aad Sheets click siiso sidaana waa aad ku soo furi karaysaa qaabkana waad ku soo furi karaysaa waxa kale oo aad ku soo furi kartaa inaad halkan ku qorto sheets.google.com URL-ka aad qorto kana waa aad ku soo furi karaysaa waxa kale oo isna ku soo furi kartaa inaad halkan ku qorto docs.google.com/spreadsheets inaad qorto URL-ka kale aad qorto marka ka click enter siisana sidaan waad ku soo furi karaysaa marka dhowrka qaabba waa aad ku soo furi karaysaa waxa kale oo ku soo furi karaysaa inaad gasho mid kamid ah products-ka kale Google sida Google Docs Google Forms Google Slides mid kamid ah aad gasho inaad soo furto menu-gan yar aad markaa ka doorato Sheets qaabkaasina waa qaab kale oo aad ku soo furi karayso dhowrka qaab markaa waad ku soo furi karaysaa sidaa doonto soo fur qaabka kala duwan aan soo aragnay just waa inaad soo furi karayso aad interface-kan iman karayso marka halkan timaado waxaad aragtaa environment-kan halkan waxaad ku haysataa waxyaabihii u dambeeyay ka shaqeynaysay ama faylashii u dambeeyay ee aad isticmaashay halkan sarena waxaad ku samaysan kartaa markaa mid cusub baad ku samaysan kartaa halkan waad ka search gareyn kartaa sidoo kale button-kan waxaad ka geli kartaa markaa Google Drive-kaaga oo faylashii kale kugu tiriba halkan aad ka soo furi karaysaa halkan ku soo gelin markaa waxaan samayn karnaa sidoo kale mid cusub ama spreadsheet cusub haddana sameyn doono spreadsheet waa sheets ayuu isticmaalaa Excel-ka iyo Google Sheets-ka labaduba ama software-rada spreadsheets-ka lagu edit karayo dhani halka uu Google Docs ama Word-ku isticmaalayay Microsoft Word-ku isticmaalayay Pages PowerPoint-kuna uu isticmaalayay Slides uu isticmaalayay marka kuwan kale maxay isticmaalaan Sheets ay isticmaalaan waxa la yaqaan spreadsheets baa la dhahdaa faylashooda inaanu mid cusub sameeyno markaan doonano laba option baan haysanaa inaanu blank doorano mid cad oo xaashi cad ah ama inaanu halkan ka doorano mid template oo hore loo isticmaalay waliba templates way fara badan yihiin haddaad template gallery-gan button soo furto waxaad halkan ku haysataa template aad u fara badan way kamid yihiin scheduler ay kamid yihiin annual calendar ay kamid yihiin monthly budget uu kamid yahay to do list way badan yihiin ka doonto ayaad markaa ka dooran karaysaa mid haddaan ka doorano tusaale ahaan ka doorano to do list kan oo kale aan click siino markaan click siino then wuxuu ina geyn doonaa wuxuu inoo soo furi doonaa template laynoo sii diyaariyay aan isticmaalno oo ah to do list ama list aad gashanayso to do list ahaan aad isticmaali karayso okay iminka kan iska bixi doonaa waxaan samaysan doonaa mid inuu aan iska leenahay oo inagu samaysanay oo blanka marka button-kan ayaan click siinana ama logadan Google Sheets-ka ayaan click siin karnaa si aan ugu noqono markaa daaqadii u horeysay ama interface-kii u horeeyay waxaan markaa dooranayaa blank oo kan horeeya markaan blank doorto daaqadan hadana ay soo saaray marka daaqadan haddaad Excel hore u isticmaashay waa aad garanaysaa haddaan Excel ka soo furno oo aan
igu jiraan soo furo waxay igu jireen 2019 aan blank soo furo qaabkan ayuu excel ku eegyahay qaabkan waxa weeg excelka qaabkanina waa maxay waa google sheets marka aad bay waa isku mid waxba kuma kala duwana saasa marka laga reebo qaybtan sare ee ay la oran jiray office-ka ribbon-ka la oran jiray oo ay ku kala duwan yihiin iyo menus-kan iyo ay ku kala duwan yihiin laakiin sida kale waa isaga mid okay halkan markaad joogto hadaba waxyaabo badan baynu halkan garananaa sida font-kan oo kale la habeeyo qaabka loo habeeyo boolki italic waxyaabaha waan garananaa waxyaabo badan oo inagu cusub yihiin qaybtan oo kale oo qoraalkaad qorto wax laga bedelayo formatting lagu sameynayo qaybtan shaxdan way inagu cusub tahay marka shaxdan hadaan guda galno wax kale ma aha waxa la yiraahdaa spreadsheet xaashadaha noocan waxa la yiraahdaa spreadsheets waxa lagu talagalay in data la gashado waxay leedahay waxa la yiraahdaa cell kastaana wuxuu leeyahay magac tusaale ahaan imika cellkaas ayaan joogaa halkan waxa la yiraahdaa name box waxa ugu qoran cellkan aan jooga magaciisa waa A1 A-dan iyo 1 kan magaca wuxuu ka qaatay column-ka dheer wuxuu wataa A row-gana waa 1 marka halka ay isaga beegan yihiin kan iyo kan halka ay isugu imanayaan cellkan ku samaysan waxa la yiraahdaa A1 kan kale hadaan tago waxa la yiraahdaa B1 hadaan kan kale tago waxa la yiraahdaa B2 hadaan halkan oo kale tago waxa la yiraahdaa maxay D9 la yiraahdaa sidoo kale halkan waad ka select gareyn kartaa waxaad qori kartaa hadaan qoro tusaale ahaan C7 oo kale hadaan qoro wigay mid xagana C ka xagana 7 ka marka mid kasta cellskan wuxuu leeyahay magac buu leeyahay muxuu yahay markaas cellkani waa meeshii aad daatada ku qori lahayd word-ko kale waxaan soo baranay waxa lagu qoraa anywhere aad doonto oo page-ka kamid ah laakiin kan waxaad ku qoraysaa maxay cellskan aad ku qori kartaa meeshaad ka doonto page-kan spreadsheet-kan oo cell leh cellka ay dooranaysaa dan markaas aad qoraalkaaga aad qoraysaa waxaynu markaas sameynanaa marka koobaad waxaan baran doonaa inaha yare basics-ka and then waxaynu u gudbi doonaa inaynu data analysis ku sameyno oo aynu data soo gashano oo aynu featureska muhiimka ee waxyaabaha uu ajaayib ku yahay aan aragno balse intan hore aynu horta inaha yare basics-kaasi aragno marka koobaad cellkan waa inaad cell dooran karayso si aad u dooran karto ama aad cellskan aad navigation ku dhex sameyn karayso mouse-kaaga ayaad geynaysaa halka aad doonayso inaad qoraal ku qorto tusaale ahaan halka imika mouse-ku taagan yahay kale dan click baad siinaysaa cellkaas ayaad qoraalkii ku dhex qori karaysaa tusaale ahaan kani waa qoraal tijaabo ah halkaas ayaad qoraalkii ku dhex qori karaysaa haddaan isla qoraalkii ku noqdo halka waxaad aragtaa inuu qoraalkii ka soo baxayo sare waxa la yiraahdaa formula bar baa la yiraahdaa qoraalkaaga iyo form waynu arki doonaa ka aad baynu isticmaali doonaa balse haddaan halka ka masoo qoraalkii markaa aan ku qoro tijaabo aan dini transiyo waxaad arkaysaa inuu qoraalkii isbedelayo haddaan again aan doorto cellkii oo haddana wax kale qoro waa uu isbedelaya waana saa la socota haddaad cell doorato danaad wax yacni halkii caadi looga highlight gareyn jiray software-ada kale isaga uma baahna inaad highlight garayso just cellkaad wax ka bedelayso oo dooranaysaa qoraalkii waad qoraysaa waxa kaloo samayn kartaa cellskan aad u kala gudubto markaad doonaysid arrows-ka aad isticmaali kartaa arrows-ka keyboard-kaaga ayaad isticmaali kartaa waa top arrow-ga bottom arrow-ga right arrow-ga iyo left arrow-ga kuwaas ayaad isticmaali karaysaa home oo row-ga joogto halka u horeysa halka haddaan imika joogo oon home buttonka home-kiiga taabto halka u horeysa ayuu geynayaa haddaan control iyo home isla qabsana A1 ayuu geyn doonaa ka ugu sarreeya ayuu geyn doonaa halka u sarreysa ayuu geeyay halkan aan tagay dan control iyo home halka u sarreysa ayuu geynayaa kuwa waynu isticmaali doonaa waynu arki doonaa waxa kaloo muhiim ah inaad qoraalkaagan aad highlight gareyn karto tusaale ahaan halkan haddaan ku qoro Saturday and then Sunday Monday oo qaabkan waliba qaabkan looma qoro marka la qorayo la isticmaalayo spreadsheets-kan ama software-adan oo kale waxa la sameeyaa waa la highlight gareeyaa adigoo markaad inaad highlight gareyso doonayso ka ugu horeeya dooranaya and then control iyo click baad siin kartaa kuwa kalena ama ka ugu horeeya dooran kartaa then shift baad qaban kartaa ilaa ka ugu dambeeya isaga ayaa ku wada highlight gareynaya ama click baad siinaysaa adigoon meel lahayn baad jiidaysaa markaa mouse-kaaga sidaan oo kugu highlight gareynaya iminka sidaa markaan u highlight gareeyo haddaan doonayo inuu dhayskay dhammaystiro inagoo baran doona autofill waxa la yidhaahdo kan ayaan qabanayaa just waan jiidayaa badda kayr baan qabanayaa maalmihii kale isaga ay dhammaystiraya marka maalmihii kale isagu ii dhammaystiray waxyaabo cajaayib ku yahay weeyaan autofill ayaa la yidhahdaa waynu baran doonaa haddaan doonayo marka qoraalkan wax ka bedbedelo
waan highlight garaynaya inaan delete gareeyo haddaan doonayo delete kii baan taabanaya waan masaxi karaa inaan soo celiyo markaan doonayo kan ayaan click siin karaa inaan haddana iska celiyo markaan doonayo qalad kani waa qalad aad gashay ka noqo kana waa hadduu kuu saxsan ay soo celi ka noqo soo celi ka noqo soo celi button-kan kale waa print isaga waan garananaa markaad inaad print garayso aad doonaysid sidoo kale waxaa xusid mudan xaashidan cad gradeskan ay leedahay markaad print garaynayso ma muuqanayaan marka laga reebo borderska adigu samaysa mooyaane imika haddaan tagaalkan print aan idhaahdo borderska hareerahan kuwii faraha badnaa ma muuqdaan just intii aan wax ku dhex qortay oo keliya ayuu borders iigu sameeyey kani waa paint formatkii oo aan garanano formatka inaad meel ka qaadato tusaale ahaan haddaynu fridaydan oo kala tagno horaan soo wada baranay waxaan markaan google sheets google docs iyo google slides kan soo baranay عندنا كان فورمات سينو هذا دورنا كون كلنا نقابل كرينا كنا يندورنا بين كان قادنا سؤال هان كانوا فرق كلنا كليك سيننا وحقا قاتم مركز استير كاسي كان أيو كقاتم عقاب كاسي الله استعمال كان رون كرنا كنوا سوم كي نسوا سوم كرينو سوم إن نندهنو سوم إن أما سوم أوضان ندهنو كان نقول حاجة وين نقول عصب تاين تاني تا كلام كرنا قيب تاني وين نقول عصب تاين waxa weeyaan tusaalahan haddaan ku qorto tiro 100 baan ku qoray waxaad aragtaa 100 kan inuu cirifkan midigta tagayo waayo waa number haddaan qoraal caadi ah qoro halkan ka sareysa oon qoro tijaabo waxaad aragtaa qoraalkii inuu leftiga tagayo marka format ay leeyihiin oo wax la isla yaqaano inagoo taa u tagi doona haddaynu dooranay imika qoraalkan ama numberkan waxaynu ka dhigi karnaa dollar oo kale calaamadii dollarkan siin karnaa currency-ga كان كليك سين كرنا دين محو نقضي $100 ما percentage بان دونيا بقول كيبا بقول كله دين قرال كيبا قرية كان يندورنا بس كان percentage كا انت عن دورت مركب كوبات كان دونيا دين بس كان كليك سين يا دين محو كردجي بقول لي بو بدري لكن بقولنا واو كله في الصعب بقولنا واو كله فنيا كان كل حاجة واحد ويان وديسيمالس inaad halkan imika pointyada ka raac pointiga labada eber si raacaya ama decimaliska si raacaya inaad yareyso iyo inaad kordhiso tan oo kale waan ka yareyn karnaa waana ka saari karnaa kana waan ka saari karnaa sida aragto waana ku soo kordhin karnaa kaasina waa ka haddaan doonano waxyaabo badan oo dheeraad ah waxaan soo furi karnaa button kan oo more format la yiraahdo ay 1 2 3 ku qoran tahay waxaanu samayn karnaa halkan aynu waxyaabo badan oo kale ka bedeli karnaa qoraalkeena iyo datadeena aynu wax badan ka bedeli karnaa waxaan ka bedeli karnaa waxa kamid ah tusaale ahaan imika waxaan sheegay markii dhaweyd in uu kani cirifkan midigta uu automatic by default u fadhiisanayo taa waxa ugu wacan imika waa currency baa dooran laakiin haddaan automatic ka dhigo marka ugu horeysa wax qoro automatic baa select garaysan automatic imika haddaan doorto halkan soo furo automatic baa select garaysan automaticna meeshan tira ku jirta waana automatic left wuxuu dhigay cirifka midigta haddaan plain text ka doorto xagga qoraalka caadiga ah bugini xaggan kale bugini anigoon alignment-ka aan waxba ka bedelin alignment-ka waan tagi doonaa waxa kale oo samayn karnaa inaynu number nidhaahdo waa kan cirifka inoo geeyey sidaas la mid ah qoraalkan isagana number baan odhan karnaa waxa kale oo aynu samayn karnaa halkan waxaynu ka dhigi karnaa percentage waan soo aragnay oo percentage aad ka dhigaso halkan aan soo aragnay iyo halkan bay noogu jira waxa kale oo aynu ka dhigi karnaa scientific notationskii aynu ku dari karnaa qormo sayniskii iyo waxyaabihii waxaynu samayn karnaa accountingkii waxyaabo badan baan samayn karnaa waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah horta rounded oo kale aynu samayn karnaa haddaynu imika halkan qorno 105.5 oo kale and then aynu doonayno inuu round sameeyo rounding kan aynu doorananaa then waxaan odhan karnaa currency rounded oo kale yani haddii lacag ahayd oo kale imika intani rounded baan ku sameynaa muxuu ka dhigay 106 buu ka dhigay haddaynu dhahno again 105.4 oo aynu kan ku noqono hoos buu round gareyn doonaa wuxuu ka dhigi doonaa 105 taas ku celin doonaa marka halkan maxay ugu jira dalka formula bar eegto 105.4 kana maxay ugu jira 105.5 laakiin labadoodaba waa uu round gareeyay halkan markaan joogno waa round gareeyay rounded buu sameeyay waxyaabo kale management ku sameyn karto ama aad yani edit gareyn karto ama formatting ku sameyn karto wax kamid date-ka tusaale haddaan halkan ku qorno codii January 2022 then aan doonayno inuu qoro qaab ka duwan qaabkan waxaan tagi karnaa halkan then waxaan dooran karnaa date and time ama date kan dooran karnaa qaabkan ayuu ka dhigaya kliga haddaan siiyo muxuu ka dhigay qaabkaas ayuu ka dhigay isaga ayaa fahmayay January bisha koobaad ay tahay haddaan idhaahdo halkan 12kii April 2022 baan idhiba then haddaan doorto aan select gareeyo then aan idhaahdo maxay
date isaga ayaa April fahmaya inay bisha maxay tahay afraad then waxa kala samayn karnaa sidaas lamida time-kii oo kale waxaan oran karnaa waa 3dii iyo badhkii oo kale and then haddaan imika doorto waxaan oran karaa time then muxuu ka dhigay 3dii badhkii am oo kale ayuu ka dhigay sidaad aragto waxyaabo badan baad ku samayn kartaa duration-ka date and time-kood labadaba israacin karto date and time-kan israaciyay and then waxaad aragtaa inuu date-kii iyo time-kiiba uu israacinayo waxa kale oo samayn karnaa oo imika gelin karnaa wixii la oran jiray lacagtii oo inuu bedeli karno oo inuu shilin oo kala gashan karno Ethiopian birr gashan custom currency baad click siinaysaa tusaale ahaan haddaan ku qorno 100 oo kale then aynu idhaahno ama halkan 200 aan ku qoro 200 oo dollar ba ka soo qaad and then aan idhaahdo 200 waxa weeyaan waxaan oran karaa custom currency ma oran karaa halkan waxa ka dooran karaa lacag badan marka shilinkan marka hore kuma jiraan gashaday halkan laakiin Ethiopian birr baa jirta US dollar waxa jira marka tusaale ahaan waxaan doonayaa Ethiopian birr and then apply baan idhi halkan maxaa 200 oo birr waxa kale oo gelin karaa 300 and then format-ka kaasar ayaan ka qaadan karaa intaan doorto ayaan oran karaa button-kan paint format-ka aan click siin karaa then muxuu ka dhigay 200 oo birr iyo 300 oo birr haddaan sidaan u qoro maxay kala duwan yihiin oo birr idhaahdo 200 aan kala idhaahdo maxay birr 300 aan idhaahdo birr 300 aan idhaahdo maxay kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin farqi weyn ayaa u dhaxeeya kan waxaad aragtaa in right-ka ka la ingiriisiyo ama dhinaca midigta kana uu dhinacan bidixda ka la ingiriisiyo tan waa text caadiya kana waa waxa weeyaan waa tiro caadiya weeyaan waa tiro caadiya oo unit kala raaciyay lacagta waxaynu oran karnaa kan waynu isku geyn karnaa ama waxaynu ku qaban waynu isku dhufan karnaa waxaynu yacni qaacidooyinka xisaabta aynu ka apply garan karnaa haddaynu equal nidhaahno imika waxaan oran karnaa kan oo loo geeyay waynu baran doonaa oo loo geeyay plus kan ayaan oran karnaa and then enter baan siin karaa wuxuu geliyay halkan markaa 500 labadan ay isu geeyay laakiin kan haddaan equal idhaahdo kan oo loo geeyay haddaan idhaahdo kan oo enter idhaahdo wuxuu soo saarayaa error buu soo saarayaa marka kani waa string caadiya ama waa text caadiya kanina waa number weeyaan unit-kan uu la raaciyay bir un ma aha waxa doonta ayaad ka dhigan kartaa tusaale ahaan waxaan oran karaa 100 halkan waxaan oran karaa maxay 200 and then waxaan raacsan karaa shilling oo kale ayaan raacsan karaa shilling waxaan tagaysaa button-kan yar then waxaan kartaa custom currency oo kale halkan waxaad ku qoraysaa markaa shilling marka hore shilling kuuguma qorno shilling ayaad ka dhigan kartaa ama shillingis baad ka dhigi kartaa then apply baad oran kartaa marka isaga ku raacinaya waad soo dheer waxaad samayn kartaa format-ka sare ka soo qaadi kartaa and then kanaad siin kartaa then waa cabir caadi ah oo imika aad siisay adigu ama lacag caadi weeyaan marka qaabkaad doonto ayaad ka dhigi kartaa marka waa waxyaabo features oo ajaayib uu ku yahay custom date and time baad samaysan kartaa oo time-kii iyo date-kii qaabkaad adigu jeceshay ayaad ka dhigi kartaa tusaale ahaan markii dhaweyd markaynu halkan ku qorno kowdii July 2022 oo kale markaan qoro haddaan doorto markaa halkan aan date ka doorto just qaabkan uu qoray laakiin custom baan dooran karnaa mid custom inagu iska qaabkan doonaan ka dhigano maxaad tagaysaa custom date and time then halkan ayaad ka dooran karaysaa waxaad ka dooranaysaa tusaale ahaan qaabkan oo kale Tuesday August 5-teedii then kan ayaad click siin kartaa apply baan oran karnaa then qaabkaas ayuu ka dhigay laakiin meeshu inooma deeqayso oo column-kii ay cirifka qoraalkii ku hoos maray marka si aan column-kan u weyneyno waxaan samayn karnaa xagga hoos sareysan tagi karnaa marka ay arrow-ga yari ama mouse-ku noqdo labada falaadhada kala jeeda ayaan click siin karnaa and then dhinacan u jeedi karnaa then qoraalkii caadi weyn muxuu ka dhigay qaabkii custom-kan inoo weyn doonanay ayaaba uu inooga dhigay waxaan kaloo oran karnaa halkan tusaalahan 11-kii bishii 9aad 11-keedii maybe 2022 waxaan doonaynaa inaynu kan ka dhigno maxay date and time ama date aynu iska leenahay oo custom waxaan tegaynaa mort format-kan custom date and format baan tegi karnaa and then waxaan oran karnaa date waxaad nooga dhigtaa iyo la soo gaagaabiyey waxaan oran karnaa month-ka waxaad nooga dhigtaa month-ka oo caadi loo qoray oo la dhammaystiray waxaan oran karnaa oo kale maybe waxaan oran karnaa qaabkan oo kale and then apply baan oran karnaa kan inaan ku apply gareyn ayaan doonayay waxaan ka tegay slash-kii ayaan halkaa ka tegay halkaas ayaan slash-kii ka tegay and then qaabkaas ayuu ka dhigay qaabkaas ayaaba uu ka dhigay
saad aragto Sunday September 11 uu ka dhigay saad aragto marka formatka adiga ayaa nooca doonto ka dhigan karaya weli Excel kuba laakiin kan aad ayuu uga simbilsan yahay waxaanu samayn karnaa qoraalkan inaha waan garananaa kale wayna fartiyo kala bedelno font family-ga hadaan imkaantana kala wada highlight garayno waxaan samayn karnaa farta nooceega ayaan bedeli karnaa halkan ayaan ka dooran karnaa fartan doonano tusaale ahaan Pacific taas oo ka dooran karnaa dan waxaad aragtaa in farti oo dhan ay isbedeshay mar labaad baan wada highlight garaynaa adigoo muuska ka horeeya geynaya ama halka highlight kana ka bilowdo doonayso and then jiidaya sine dragging sameynaya and then waxaad samayn kartaa farta ayaad bedeli kartaa lato ayaan ka dhigi karnaa waxaanu samayn karnaa halkan font size-ka ayaan kordhin karnaa aan ka dhigi karnaa mid waaweyn maya waxaan ka dhigi karnaa mid yar yar waxa kale oo samayn karnaa bold baan ka dhigi karnaa farta ama waan ka dayn karnaa italic strike through oo line baan dhex marin karnaa waxaadna line ka dhex marin kartaa wax xabad aad u baahan tahay yani xabadan kale aan u baahanahay maybe click baan siinana line buu dhex marin waxaan samayn karnaa sidoo kale in aynu u samayno farta colorkeega aan bedelno farta colorkeega bedeli karnaa qaabkaas ayaan ka dhignay waan dooranaa marka koobaad markaan doorano waxaan ka dooranaa halkan noocan doonano tusaale casaankaas oo kale and then waxa kale oo samayn karnaa background-ka ayaan bedeli karnaa waa kan fill color-ka intaad highlight garayso ayaad nooca doonayso aad ka dhigan kartaa qaabkaas aan ka dhignay iminka waxaan samayn karnaa borders baan samayn karnaa waan highlight garaynaa and then waxaan dooranaa buttonka borderska doonayso markaad ka dooran kartaa ama waxaad doonaysaa kuwa gudahuna mise borders ku wada hareeraysan mise cirifkan bidixda oo kaliya iyo doonaysaa topka oo kaliya right-ka oo kaliyata baan right-ka oo kaliya dhahno cirifkan kaliya ugu sameynaya left-ga oo kaliyata hadaan dhahno ugu sameynaya cirifka left-ga hadaan dhahno bottom-ka oo kale bottom-ka oo kaliya ugu sameynaya waxaan samayn karnaa all baan oran karnaa inta dhanba ugu samayn karaa waxaan bedeli karnaa borderkan color-keega waxaan ka dhigi karnaa red oo kale waxaan bedeli karnaa weight-keega ama dhumucdeeda ama style-keega aan bedeli karnaa kan ayaan ka dhigi karnaa yar buuran qaabkan doon ayaan markaan u bedeli karnaa waxaan bedeli karnaa sidoo kale kan loogu xiga waxa la yiraahdaa merge cells waa imika active ma aha si active ugu noqdo waa inaad dhowr cells la doorato wuxuu qabtaa cells-ka ayuu isku furaa tusaale column-kaas oo dhan baa doonaysaa inaad isku wada dhex furto waxaad samaynaysaa wad highlight garanaysaa inta doonayso and then kan ayaad click siinaysaa wuxuu sameeyay intaaba uu isku wada furay hal cell buu ka dhigay inta kale doonaysaa dan waad highlight garanaysaa dan uu isku ka dhex furaya waxaad doonaysaa cirifkan ilaa iyo cirifkan waxaad samaynaysaa maxay ama waxaad doonaysaa inaad kuwan isku dhex furto waxaad samayn kartaa marka oo ka dhinacan aad horizontal ahaan isugu furto waxaad samayn kartaa arrow-ga yaraad soo furi kartaa markaad soo furto waxaad haystaa dhowr qaab merge vertically iyo merge all markii hore by default waa merge vertically waa inuu columns-ka uu ka saaro sidii markii dhawaan arknay laymankan dhex marsan hadaan merge vertically dhahdo oo ka wataagtagan ma ka dhigay sidoo kale waxa jira merge horizontally oo qaabkan ama ka saaraya rows-ka ka saaraya laymankan ka saaraya data qoostan fidsan ayuu ka dhigaya hadaan soo furno marka arrow-ga yara ku aga aan dhahdo merge horizontally then uu isku dhex furaya qaabkaas ayuu ka dhigaya hadaan doonayno inaynu sideedii hore ku celino waan highlight garaynaa and then waxaan sameynaynaa unmerge sideedii hore buu nagu celinaya kan kale waan highlight garaynaa waxaan odhanaynaa maxay unmerge ayaan odhanaynaa isagana laakiin style-kii meesha waa uu ka baxay oo waxa uu nagu soo celiyey borderskii buu ka saaray oo wuxuu noo soo geliyey grid lineskii grey-ga ahaa hadaan doono marka style-kan inaan ku celino marka hore uu inoo ahaa waxaan dooranaa mid kamid ah cells-kan kale paint format-kan soo qaadananaa and then intaan doonana baan dul marinanaa then style-kii bay aad u qaadanayaan okay waxaan ka gudbayaa kan oo la yiraahdo alignment-ki waa horizontal alignment iyo vertical alignment ma haysanaa horizontal alignment-ku waxa weeyaan qoraalkaagani halkee lagu align garaya tusaale ahaan marka 100 iyo halkan waxaan haysanaa ama Sunday baan halkan haysanaa qoraal Sunday nagu qoran tahay hadaan doonayno inaan center ka geyno ama cirifkan midigta maxaan sameynaa waxaan tagnaa kan horizontal align-ka then center kan geyn karnaa again on click siin karnaa right ka dhinaca midigta ayaan geyn karnaa by default laakiin waa left text-ka caadiga numbers-kuna by default waa dhinaca midigta weeyaan by default okay waxaan samayn karnaa vertical align baan samayn karnaa vertical alignment ayaan samayn karnaa vertical alignment waxa weeyaan halkan ayaan qoraal ku qornay qoraalkii ama cells-kan aan isku dhex furnay ayaan qoraal ku qornay waxaan ku qornayba tijaabo and then waxaan doonaynaa qoraalkani iminka xagga hoose yimid
حقي هو هوسيسay yimid cellskan isku dhex furnay kii u dambeeyay mid xagga hooseysa waxaan doonaynaa halkaas centerka geeyno waxaan samayn karnaa vertical line kan then waxaan ka dooran karnaa middle then bartanka u geynaya bartanka waxaan oran karnaa labadaba iminka middle kan geynay horizontal kan waxaan dhignaa centerka then qoraalkii maxaan dhignay centerka kaasina waa alignment waxay nagu xiga rotation ka cell kan ayaan dooranaa iminkaan merge karaynay then waxaan oranaa rotation ka waxa kugu jira rotations lagu sii diyaariyay kaas oo kale kugu jira and then kan kale kugu jira kan kale isaguna kugu jira iyo kan kale mid walbana waxaad arkaysaa effect oo ku yeelanayo qoraalkeen waxaan sameynaynaa intaas baad ku qancin weydo waxaad soo furi kartaa arrow yar degree aad doonayso inaad rotation sameyso ayaad halkan gelin kartaa tusaale ahaan 20 degree then rotation yar oo kooban ku dhigaya 45 degree baan u baahanahay waan soo furaya waxaan ka dhigayaa 45 then waka haddaad doonayso custom numberna adiga ayaa halkan ka shaqeeya tusaale ahaan 10 degree oo kale ayaad doonaysaa enter baad siinaysaa wuxuu rotation sameeyay 10 degree oo kaliya ay rotation sameeyay waxay nagu xiga linkigaasi waa hyperlinkiga caadiga naqaanay waxaan samayn karnaa halkan oo kale hadaan ku qorno kororso aqoon kale hadaan ku qorno and then aan dooranay soo click siino oo linkigan click siino waxaan gelin karnaa linkigaasi wuxuu noqon karaa sheet kale wuxuu noqon karaa website URL kiisa wuxuu noqon karaa anything buu noqon karaa tusaale ahaan kororso aqoon.com oo kale weeyaanba then enter baad siinaysaa markaad mouse ku dulgeyso waxa ku soo baxay website-ka dad click siisa markaa wuxuu ku soo furayaa tab cusub nagu soo furayaa redirection intuu sameeyo website-kii kororso aqoon ayaaba uu nagu soo furayaa okay waa kan noo soo furay hadda waan iska xidhnaa kaasina waa ka hyperlink-una ama link-guna waa ka weey kan inoogu xiga waa comment-kii horena soo aragnay waa inaad markaad dhowr qof wada shaqeynayso inaad comment u raaciso comment-kaad click siinaysaa qofkaad halkan markaa ka mention garanaysaa qoraysaa at then waxaad qoraysaa markaa email-kiisii then waxaad qoraysaa markaa ama magaciisii comment badanaysaa qoraalkiina u raaciso okay waxay noogu xiga chartska functionska iyo filterka marka iyagana markaynu data caadi soo gashano ayaynu practice ku sameynay isla muuqaalkan gudihiisa data aynu soo gashan doono oo aynu practice ku sameyn doonaa sidaad aragto iminka waxaan ka shaqeynanay oo sidaan ku wadnay xaashimo wax ku diyaarsanay inahan basics-kana waan aragnay waxaan sameyn karnaa sheet 1 weyn xaashideennii hadda kan aragto maxaa ku qoran halkan hoose sheet 1 ayaa ku qoran sheet 1 ayaa ku qoran comment-kan iska xidho sheet 1 ayaa halkan maxay igu qoran hal file-na waxaad ka dhex samayn kartaa inta sheet ee doonto dhowr sheet baad ka dhex samayn kartaa horta file-kan aan magac u bixino halkan u sarreysa waxaan odhan karnaa tijaabo oo kale ama waxaan odhan karnaa Google Sheets ayaan odhan karnaa 01 then waxaan odhanaa meel bannaan baad click siinaysaa then file-kii magacaas kuugu bixiyo halkan waxaan haysanaa markaa maxay sheet 1 baan haysanaa san horeba kugu sheegay sheet cusub ma kusoo dari karnaa ha dhowr sheet baad kusoo darsan kartaa hal file plastan ayaad click siinaysaa and then halkan waxa kugu soo kordhay sheet labaad kan hore magacaad ka bedeli kartaa waxaan odhan karnaa waa basics of sheets ama basics ba ku daa kan labaadna waxaan odhan karnaa isagana double click baan siin karnaa waxaan odhan karnaa markaa tusaale ahaan results ba arday results kooda kala sheets-kana waxyaabo badan baad ka bedeli kartaa tusaale ahaan haddaad flatter hoos jeedaad click siiso waxaad delete garayn kartaa waad duplicate garayn kartaa oo labaad ka dhigi kartaa waad copying kartaa adigoo copy ka dhigaya spreadsheet cusub ka dhigi geyn kara ama mid hore u jirtay oo file hore u jiray dhex geyn karaya rename baad ku samayn kartaa magacaad ka bedeli kartaa color-kaad bedeli kartaa tusaale ahaan color-ka haddaan ka dhigno midabkan oo kale waxaad arkaysaa inuu qoraalkiina midabka ka dhigay line-na uu hoos mariyay midabkaa leh waxaa kaloo samayn karnaa protect baan odhan karnaa oo sheet-kan wax kaliya bedelin protection baan samayn karnaa hide baan ku samayn karnaa oo waan qarin karnaa comments haddii lasoo raaciyo comments-kan eegi karnaa right baan geyn karnaa oo imika right bay joogtaa edifka midigta laakiin left baan geyn karnaa haddaan move left idhaahdo sheets-ka halkan sano taxan oo aad u badan boqolaal sheet ayuu edifka wuxuu geynayaa leftiga haddaan idhaahdo mar labaad right-na edifkan wuxuu geynayaa right-ka ama midigta imika left-kan geynaya dhinacan wuxuu geeyey bidixda ayuu geeyey okay waxaanu samayn karnaa data ayaan imika soo gelin doonaa waxaan samaynayaa maybe arday oo kale datadoodan gelin karnaa markaa waxoogaa waxaan ku samayn doonaa calculations yar iyo functions yar waxaynu arki doonaa iyo sida loo isticmaalo waxaynu samayn karnaa id baan halkan gelin karnaa maybe halkan waxaan gelin karnaa student name magaca ardayga
halkan waxaan gelin karnaa introduction maybe waa courses uu qaadanay introduction of ICT baan gelin karnaa kan labaad waxaan gelin karnaa Islamic study oo kale kan saddexaad waxaan gelin karnaa course-ka saddexaad maybe English ka afraad waxaan ka dhigi karnaa maybe pre-calculus waxaan ka dhigi karnaa kan kale total oo kale totalkiisa oo kale waxyaabahaas oo kale saas oo kale oran karnaa qoraalkan waan qurxin karnaa waxbaan ka bedeli karnaa tusaale ahaan waan highlight garayn karnaa intaan highlight garayno ayaan farta ka dhigi karnaa kaba soo qaad area oo kale by default way tahayba waxaan ka dhigi karnaa lat oo kale and then waxaad aragtaa inay farti isbedeshay ama far kale aynu ka dhigi tan aynu ka dhignayba amaba waxaynu ku dayni tanba fartaas aynu ka dhignaaba fartaas aynu ka dhignayba okay waxaynu samayn karnaa waynu highlight garayn karnaa inagoo kawsha ay tagana click siinana then soo drag and drop siinana ama dragging ku samaynana waxaynu bedeli karnaa background-ka waxaynu ka dhigi karnaa tusaale ahaan background-ka fill color-ka aynu click siin karnaa waxaynu ka dhigi karnaaba maybe color-kan oo kale ama kan oo kale waa yar sii dhaakani kaas aynu ka dhigi karnaa qoraalkan ku dhex qorana waan highlight garaynana intaan highlight garayno aynu waxaynu ka dhiganaa isagana caddaanba qaabkaas oo kale aynu ka dhignay imika maybe fillka aan ku yar noqono aynu kaa ka dhigno okay waxaad aragtaa inaynu bedelnay maxay background-kii iyo color-kii farta waxaynu samayn karnaa halkan ID-ga waxaynu gelin karnaa 1 2 3 and then saddexdanba waan highlight garaynanaa waxay noo soo baxaya button-kan yar waxa la yidhaahdaa maxay fill candle baa la yidhaahdaa then saddexdaba waan highlight garaynanaa markaan saddexdaba highlight garayno button-kan yar ayaynu mouse-ka dul gelinaa marka mouse noqdo blasta ama calaamada noqdo click baan siinanaa hoos baan u jiidanaa ilaa 20 baan gaarsiinanaa ama ilaa 21 then maxaad arkaysaa inuu noo buuxiyey intii harsanayd wuu noo buuxiyey tirooyinkii kale harsanaa oo dhan ayuu noo buuxiyey halkan u sarreysa ayaan teganaa resizing baan samayn karnaa inagoo soo jiidana sidoo kale waxaan samayn karnaa double click baan siin karnaa isaga ayaa markaa isku filaysinaya ama intii ku filan qaadanaya student name-kan ayaan teganaa waxaan qoranaa tusaale ahaan qofka koobaad waa maxamed cali ka labaadna waa cali maxamed ka saddexaad waa jaamac faarax oo kale ka afraad maybe waa khadra caliba ka soo qaad waa faatima maybe maxamed oo kale kana waa yuusuf ka soo qaad waa jaamac waxa ku xiga ka soo qaad zakariye dhaato aynu isticmaali karna ayaan doonayaa axmed maybe axmed muuse kana ka dhig axmed muuse axmed sidan kale rog magaca waxaan odhan karnaa tusaale ahaan waa iglam maxamed waxaynu odhan karnaa sacad maxamed waxaynu odhan karnaa maxamed oo kale waxaynu odhan karnaa salma cali oo kale waxaynu odhan karnaa kana fatxi oble xasan maxamed waxaynu odhan karnaa qofkana xuseen axmed waxaan odhan karnaa cabdilaahi xersi oo kale kana waxaan odhan karnaa yuusuf cali maybe waxaynu odhan karnaa kan ku xiga fatxiya cali waxaynu odhan karnaa kan mawlid muuse ugu dambeyn waxaan odhan karnaa kaba soo qaad guuleyd geedi oo kale aynu odhan karnaa intaas ayaynu imika xogtoodii aynu xeraynay waxaynu samayn karnaa kuwan kale ee noo harsan waxaan odhan karnaa kan wuxuu keenayba sidaas oo kale 85 ama 82 waxaan odhan karnaa 80 buu keenay kan kale wuxuu keenay 100 saas ayaan u gelin karnaa daatada markaas in waqtigu nagu dheeraan intan waan soo koobiyin doonaa daatadan oo kale in waxaan odhan doonaa paste ayaan siin doonaa laakiin intaa ka gudbin waxaan ku dari doonaa hal course ayaan ku dari doonaa maybe halkan totalkan ka dhigay waxaan ka dhigi doonaa computer application totalkana mid labaad ayaan ka dhigi doonaa totalkana xaggan dambeysa ayaan ka dhigi doonaa formatkana kan ka qaadan doonaa then waxaan click baynu siini then paint formatka hadana kan click siini
si uu waqtigu inoogu dheeraan datadan waan noo soo koobiyeynayaa then waan paste gareynaynaa then waxaanu samayn doonaa marka inaynu ku barano ama aynu wax ka bedbedeli karno okay halkan ayaan ku paste gareynayaa values only and then okay datadii hadda waan gelinay hal qof ayaan xaggan u dambaysa ku daraya ama kan waan iska saarayaa intaan highlight gareeyo aan iska masaxaya imika sida waxaan ku haysanaa 21 arday kaba soo qaad imtixaankoodii weeyaan halkan waxaad aragtaa in ay qoraalkan ay introduction of ICT uu yar dheer yahay Islamic study uu yar dheer yahay English computer application qoraaladani way yar dheer yihiin halka tirada ku hoos qorana ay yar kooban ay aad u kooban tahay maybe inaad doonayso inaad xaashida ka faa'iideyso aad xaggan isugu durxiso haddaynu markaas aan soo dhaweyno waxaad arkaysaa inuu qoraalkii bariga qarsoomayo waxaynu samayn doonaa oo aan intaan imika soo wadayna ilownay ama aan ka soo gudbay inaan idin tusayahay word wrap waxa la yiraahdo word wrap waxa weeyaan imika qoraalkan kala sayn isku dhaweynay antan click baan siinay waa button-kan weey button-kan ayaan click siin karnaa text wrapping waxaas imika offer follow by default ku dooran inuu qoraalku markuu gaadho halkii salkaas ku joogay xagga dambe maro uu sii socdo laakiin haddaan kan click siiyo wrap qoraalkii hoos buu soo raacaysa kan kale ayaan click siinayaa and then waxaan ka dooranayaa marka isagana maxay wrap ayaan ku sameeyaa isagana kan kale ayaan tagayaa isagana isagoo ma baahnayn wrap lagu sameeyo computer application kan tagayaa maybe kan horeeyeen ayaan ka qaadanaa design-ka waxaan odhanaynaa paint format kan qaadanaa and then aan ku wada sii deynaa design-ka waxaan la garanaa intaan ka koob doorano and then waxaanu sameynaynaa si uu yar qurux badnaado waxani alignment-ka waxaan ka dhiganaa center-ka vertical alignment-kana waxaan ka dhiganaa center-ka total-ka naftigiisa vertical alignment waxaan ka dhiganaa center-ka and then labadan waxaan ka dhiganaa iyagana maxay align center vertical align center maybe imikayna sidiisaan yar dhaanto waxaan sameynaa borders oon highlight garanaa dhammaantood daatadeennan ilaalka u dambaysa waxaan u sameynaa borders baan u sameynaa all borders baan odhanaa borderska colorkooda waxaan ka dhiganaa black waxaan ka dhiganaa dhumucdoodana 1 pixel oo kale waan yaraynana imika inay sidii dhaantay ay moodaa qaab ku yahay kana waxaan ka dhiganaa maxay center align waxaan sameynaa marka total-kan oo kale sidaan ku soo saari karnaa horta waxaad ogaataa software-radan Excel-ka ama spreadsheets-ka ama Google Sheets-ka ku doona ha noqdo waxa lagu isticmaali karaa calculations baad ku sameyn kartaa any formula waad ku apply garan kartaa calculation waad sameyn kartaa waxaan sameynaynaa imika tusaale ahaan equal baan odhanayaa cell-kan oo magac leh maxaa la yiraahdaa C1 C2 yani hore soo sheegnay in cells ku magac leeyihiin ayaan click siinayaa cell-ka C2 halkaas re formulada arkaysaa C2 oo loo geeyay plus baan odhanayaa oo loo geeyay kan kale D2 oo loo sii geeyay baan odhan karaa kan kale oo loo sii geeyay maxay pre-calculus-kan oo loo sii geeyay maxay computer application-kan intaas ayaan odhan karnaa and then waxaan odhan karaa maxay enter baan siin karaa halkan muxuu ka soo saarayaa markaa 280 baa laga soo saaray oo intan oo la isku wada geeyay intaas oo la isku wada geeyay then suggestion buu ku soo saaray wuxuu qoranayaa column-kan oo dhan formulada ma kugu apply gareeya column-kan oo dhan waliba uu ku sii tusaya haddaan kan click siiyo reject suggestion haddaan idhaahdo wuu iga delete garayn doonaa yacni wuu iga saari doonaa waxaan halkan soo geliyay haddaan kan click siiyana autofill buu samayn doonaa meesha dhan wuu ii buuxin doonaa haddaan kan click siiyo meesha dhan waa ii buuxin wuuna suuqii wada geeyay haddaad imkaan hubiso oon soo saarno calculator-ka haddaan soo saarno and then aynu idhaahno maybe 77 plus 75 plus 85 plus 47 plus 57 on equal idhaahno waa 341 waa kan 341 winoo haya xisaabtoo dhan qaabka waad ugu diyaarin kartaa formulada waad isticmaali kartaa sidoo kale waxaa jira batan halkan aynu markaynu data soo gelinay noo soo noqonaan ku yidhi oo la yidhaahdo functions halkan imika gelinaynay isku geegeynanay waxaynu ka faa'iideysan karnaa function baynu ka faa'iideysan karnaa imika intan haddaan iska masaxo intaan wada highlight gareeyo haddii aan delete-kii taabto waxaan samayn karaa ka horreeya ayaan tegi karaa waxaan odhan karaa equal and then sum baan qori karaa sum
then waxaan qori karaa qaws waxaan odhan karaa kasoo bilow halka oo c2 la yiraahdo ilaa iyo maxay kan u dambeeya ee la yiraahdo kan horeeya ilaa iyo kaas ayaan odhan karaa ka horeeyaan click siinaya and then waxaan qabanayaa shift kan u dambeeyaan click siinaya qawska ayaan soo xidhaya enter baan siinaya way soo keenaya again suggestion kii baan siinaya okay baan odhan karaa ama tigtana saari karaa si uu buuxiyo ama reject baan odhan karaa waxa kale oo samayn kartaa haddaad bartan adiga iska jooga aad button click siiso oo sum click siiso wuxuu ku soo saarayaa function ka sum dib wuxuu ku leeyahay maxay suu ka geeyay laba faariyo gari meel laga bilaabayo iyo meel ku dhamaanayo waxaan doonayaa halkan inuu ka bilaabo oo c2 ah then column baan odhan karaa inuu ku dhamaado maxay kan maxaa la yiraahdaa g2 oo ku dhamaado maxay g2 and then enter baan siinaya way suu ka wada geynaya haddaan markaa mouse-ka soo qabto fill handle-ka and then aan soo jiido ilaa kan dambaysa wuxuu ii buuxinayaa dhammaan intii ka dhinayd oo dhan ayuu ii buuxinayaa intii ka dhinayd oo dhan ayuu buuxinayaa ama intii kale ayuu soo kooda geeyay muxuu ka apply gareynayaa formuladii uu ka apply gareynayaa dad fiirsalkaas ran mid kamid ah kuwan click siino formuladii baa la ka apply gareeyay kaliya wuxuu bedelayaa un maxay numberskan rows-kan uu bedelayaa oo halka ka horeeya waa maxay row 2 waa column c kana column g row 2 waa mar walba wuxuu bedelayaa un maxay imika wuxuu bedelayaa rows-ka column-ku sidiisii buu ahaanaya okay waxaan raadin karnaa ardaydan waxaan soo saarnay imika total-koodii baan soo saarnay waxa kale oo raadin karnaa ardaydan average-kooda raadin karnaa average-kooda waxaan oran karnaa maxay average inagoo function-ka faa'iideysanana average baan qori karnaa and then design-kana kana ka qaadan karnaa then waxaan oran karnaa average-kan ayaan raadin average-ka imtixaankooda ayaan raadinanaa waxaan oranaa average-ka si aan raadino waxaan isticmaali karnaa function equal baan oran karnaa average baan qori karnaa isaga ayaa wax taas suggestion ku sameeynay sidoo kale average waxaan ku soo saari karnaa intan oo isku wada geynay oo u qaybinay intii ka kooban yihiin dhowr qaab baan ku soo saari karnaa waa sum-kooda oo u qaybinay intii ka kooban yihiin waxaan oran karnaa intan isku wada gee sum oo hore soo aragnay sum-kooda oo u qaybisay maxay intii ka kooban yihiin count function ka wada count intan uni count intan ay tiri ka tirsan intan ilaa halkan meene and then waxaad samaysaa isoo saar then 56 52 60.2 and then waxa uu ku soo saaraya waxa kale oo samayn karnaa hadaynu iska wada masaxnayntan ama aynu ka noqono waxaynu samayn karnaa function inta ka fudud equal baan oran karnaa average and then average markaan click siiba isaga ay dhameystiray enter baan siiyay average equal average then waa kan haddaan click siiyo isaga suggestion ku sameynaya line-kana ku dul marinay hadduu ku soo saari waayna kan ayaad click siini and then equal aan idhaahdo and then average aan qoro kan aan ka doorto equal aan idhaahdo then aan qoro average then waxaan taaban karaa kan and then waxaan qaban karaa shift ilaa computer application qawskan soo xiri karaa enter baan siin karaa and then waka again sidaan average waan ku soo saari karaa waxa kale oo samayn karnaa maximum-ka halkan hadaan ku qorno maximum-ka yani maadada ugu sareeya ardaygan maximum-ka ayaan raadin karnaa waxaan oran karnaa max value aan raadinanaa maximum-kaas waxa weeyaan maadada ugu sareeya waxaan qori karaa equal then waxaan oran karaa max waxaan oran karaa markaa waxaad ka bilowdaa kama horeeya shift baan qaban karaa ilaa kan u dambeeya enter baan siin karaa then isagana waka maadada ugu sareeya ardaygaas taa waxay ahayd 58 maadooyinkiisa hadaan eegno 58 ugu sareeya ardayga kale 100 buu ugu sareeyay hadaan eegno waka wuxuu ugu sareeyay 100 ayuu maadada u keenay 100ka ayuu ugu sareeyay maxaa wax ku xigsiin karnaa maybe percentage-kiisa raadin karnaa waxyaabaha cajiibka ah waxa kamid ah percentage waa raad yani any formula inaad ku apply garin kartaa ayaan ku tusaya percentage-ka ayaan raadinayna percentage-ka saan soo saarno waxaan odhanaynaa percentage-kan wuxuu inoo leeyahay total-kan oo aynu u bedelnay total-kan horta ayuu ku leeyahay hadaan idhaahno total-kii meesha inoogu buuxiyay laakiin total saa kuma daynano waxaan odhanaynaa wuxuu inoo leeyahay total-kan oo loo bedelay maxay percentage and then waxaad arkaysaa inuu tiradii ku dhuftay 100 ku dhuftay saad aragto 100 ku dhuftay intaas baan waxaan u qaybinaynaa intii laga doonayay marka guud ahaan marka ardayda isku wada geeyay imise laga doonayay waa imise chorus waa 5 chorus waxaan u qaybinaynaa just 100 baan u qaybinaynaa h2 oo percentage laga dhigay oo loo qaybiyay maxay 500 then enter baan siinayaa wuxuu soo ardaygana keenay 56% 56
percentage ayuu keenay haddaan doonayno inaan design-kan kale ku apply garaynana ama design-ka qaybta kale wadato mid kamid ah cellskan ayaan click siin karnaa paint format-kan soo qaadan karnaa then waxaan dul marin karnaa markaa maxay intan then waxaa intaa bay noogu sameeyey maxay design-kii inoogu sameeyey borderski kana waan select garan karnaa average-kan paint format-kan qaadan karnaa and then intan isagana waa kaa inoo sameeyey intan hoose saan ugu apply garayno percentage-ka waxaynu sameynay tiradan oo inaan u ka dhigno maxay percentage okay aynu ka saarno decimal-iskana okay waxaynu sameyn karnaa oo kale kuwan hoose inaan ku apply garayn karnaa then hoos baan soo jiidi karnaa ilaa halkan then waka waxaanu sameyn karnaa sidoo kale waxaan raadin karnaa ardaydan maybe status-kooda xaaladda ardaygan ma dhacay ma baasay if baan isticmaali karnaa if else baa isticmaali kartaa oo loo yaqaano ifs haddaad programka soo dhigatay maybe imika if baan iska isticmaali doonaa if statement waxaa odhanaya if haddii maybe percentage-kan salkan percentage-kan click siinaya uu ka wan yahay conton then waxaan qoraya hacket comma waxaan odhanayaa waxaan furayaa quotes si aan string usoo saaro baasay baan qoraya markaa baasay then quote-ka ayaan ka baxaya waxaan qorayaa maxay comma kale ama hacket then waxaan odhanayaa laba qows oo kale ama laba quote oo kale waxaan odhanayaa haddii kale ardaygaas maxay waa dhacay baan qorayaa qowskii baan xaggan dambe kasoo xidhiyaa markaa enter baan siinayaa ardaygan muxuu soo qoray waa baasay eber baa halkaa hore iga raacay formulada enter baan siiyey okay dhacay okay ardayga koowaad waa dhacay maadaama 56 uu haysto kuwan kale ma baaseen haddaba waan soo jiidayaa ilaa halkan u dambeysaan keenayaa waa wada dhaceen buu ku leeyahay formulada ayaan wax qaladnay ardaygu hadduu ka sarreeyo maxay 50% halka waa inaan percentage gelino calaamadii percentage-ka and then waxa uu baasay then hoos soo jiidna markaa iminka formulada mar labaad ku apply garayno waxa ardaydu way baaseen marka laga reebo ardaygaas iyo ardaygaas laga reebo waa ay baaseen okay marka waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa waxyaabo aad u badan ayaad ku samayn kartaa inta aan kaga gudbo dhacdadan yaraynu wax ka badbedelanay ama aan la iskrin karinay waan sii wadi karnaa waxyaabo badan oo kale ayaan raadin karnaa balse waxaan doonayaa inaan waxyaabaha kale inoo dhiman ama buttons-ka kale ama commands-ka kale ee inoo dhiman aan aragno waxaanu u tagi doonaa qaybtan file-ka ayaan ka bilaabi doonaa inta waan aragnay marka laga reebo filter-ka oo inuu soo noqon doono markaynu data marno iyo kan marka laga reebo intan kale waan aragnay waxaanu toos ku tagi doonaa kuwan aynu commands-ka inoogu hoos jiro aynu arki doonaa file-kan ayaa ugu horeeya file-kan waxay inoogu hoos jira inaynu mid cusub samaynano iyo inaynu template gallery kasoo dooranano labada horaan u aragnay haddaan spreadsheet-kan click siino wuxuu inoo soo furaya marka daaqadii ugu horeysay buu ina geenaya wuxuu inoo soo furaya halkan xaashi cad buu inoo samaynaya haddaan mar labaad ku noqono aynu file nidhaahno from template gallery wuxuu ka odhanayaa iska dhex dooro halkan template-kan mid ka dooro labadoodaba ma doonano waan garananaa open waa inaad file hore u jiray aad soo furto haddaan imika open oo kale aan click siiyo wuxuu igeynayaa markaa halkan ayuu igeynayaa waxaan kasoo furi karaa markaa kuwa aan hore u diyaariyo kale to do list markii dhaweydoo kale ayaan click siin karaa open baan click siin karaa then waa kan to do list markii u dambeysay aan sameynay markii dhaweyd inoo soo furay tijaabo ahaan u sameynay template-ka ahaa waan iska xidhi karnaa waxaan samayn karnaa sidoo kale copy baan ka samayn karnaa halka ay make a copy ka isticmaaleen Google Docs-ka Google Sheets-ka iyo Google Slides-ka iyo Google Products-kan oo dhan software-rada kale waxay ka isticmaalaan save as ay ka isticmaalaan make a copy baan click siin karnaa then drive Google Drive-ka aad ka dooranaysaa click then waxaad ka sii dooran kartaa Google Drive-ka aad sii geli kartaa folder baan halkan ka samaysan karnaa ka Google Doc Products inuu qoran tahay and then waxaan ka sii dooran karnaa ka soo qaadba Google Sheets and then okay baan siin karnaa halkaas ayuu markaa maxay noogu samaynayaa copy make a copy baan click siinanaa then copy buu inoo dhex dhigay Google Drive-ka folder-kaas aan imika dooranay haddaan Google Drive-ka soo galo imika oo aan halkan ka galo Drive wuxuu igeynayaa markaa Google Products-kan aan sii galo folder-kan Google Products-ka wuxuu igeyn doonaa folder-kan Google Sheets haddaan sii galo waa kan file-kii aan copy-ga marka dhaweydaan ku samaynay halkan ayaabuu inoo yaala aan ku socono waxaa kaloo samayn karnaa file-kan haddaan tagno
share baan isticmaali karnaa waxaan u share garan karnaa dadka kale waxaan ku soo aragnay Google Docs-ka dibna waan yar dul marnaa ama webka aynu ku publish garan karnaa hadaynu publish to web oo kale marka click siino horta share to web aan aragno ama share to others share baan tagnaa share to others baan oran karnaa then halkan waxaan gelin karnaa emailiska dadka aan doonayno inaan u share garayno aynu halkan gelin karnaa waxaan oran karnaa sidoo kale linkigan aynu copyin karnaa waxaan halkan ka dooran karnaa anyone with the link ha geli karo ama restrict baan oran karnaa then halkan aynu dad gaar uga yeeri karnaa waxaan oranaa marka anyone with the link copy link baan oranaa browser kale ayaan soo furaya kanoo kale markaan kanoo kale soo furo waxaan sameynanaa halkan ayaan linkii ku paste garaynayaa enter baan siinaya markaan enter siiyo waa inuu filekii dhex geeyo marka filekii buu imika uu dhex geeyo filekii ayuu imika dhex geeyay laakiin waan eegi karayaa maadaama aanan Google halkan aanan kaga jirin aanan Google Docs-kii aanan halkan kaga jirin ama emailkayga aanan halkan kaga jirin waa view only basics-kan aan eegi karaa iyo result-ka labadii sheet baan haystayba waxaa kaloo samayn karnaa haddaan ka noqdo waxaan tegi karnaa file then waxaan tegi karaa share publish to web ayaan oran karaa then waxaan oran karaa ma document-ka oo dhan baa doonaysaa mise yani qaabkeedu doonaysaa waxaad doonaysaa entire document waxaad doonaysaa sheetka results slide mise basics-ka labadoodaba waan doonaya ka soo qaabkeedu doonaysaa ma web page waxaad doonaysaa comma separated file inuu kaaga dhigo ma inuu kaaga dhigo PDF inuu kaaga dhigo ma Excel maybe waxaan doonaynaa web page sidii website kale inuu soo baxo halkan content-ka ayaynu sii karnaa content-ka la publish garaynayo waa entire web ama waa entire document-ka oo dhan publish to web baan oran karnaa are you sure buu ka odhanaya then okay baad oranaysaa linkigan ayaan qaadanaa marka link buu inoo soo saaraya dadna waad u share garan kartaa Twitter-ka Facebook-ka Gmail-ka ayaad u publish garan kartaa embedded ahaana waad u qaadan kartaa oo dad kan qaadato website-ka waad soo dhex dhigi kartaa laakiin imika linkigan ayaan qaadanaa copy baan siinanaa waxaan teganaa browser-kii kale markii soo furnay halkan ayaan ku paste garaynaa waa inuu qaabkii website oo kale u soo baxo marka waa kan datadeeni maxay soo baxday qaabkii website-ka oo kale ay soo baxday basics-kan kale ay tagaysaa tab results-ka labadan haysan marka iyo file-ka magaciisa intaasina waa marka inaad dadka u share garaysaa aad doonaysid halkan waxaad aragtaa waxoogaa intaan ka gudbin magacyadii oo kale inay xaggan ku yara qarsoomeen halkan marka ka sare ayaan tagaya sinaan jiidi karaa sidoo kale double click baan siin karaa meesha ayaa uu isku filaysiinaya okay aan ku socdo waxaan samayn karnaa email baan u share garan karnaa email to this file baan oran karnaa then waxaan u share garan karnaa marka qof aan emailkiisa garanayna ayaan u share garan karnaa waxaan samayn karnaa download markaan download garaysanano waxaan u download garaysan karnaa Excel file ahaan open document ahaan PDF ahaan web page ahaan oo sidii kiimka narkanaya comma separated values ahaan ama tab separated values waxaan doonaynaa tusaale ahaan Excel file ahaan oo kale ayaan doonaynaa waxaan dooranaa marka Microsoft Excel ayaan dooranaa marka Microsoft Excel kaas kala doorto halkan waxa iga bilaabmi doona maxay download ayaa halkan iga bilowday halkan hoose ayaad aragtaa inuu download-ki marka linka yaalo file-ki waan soo furi karaa open baan oran karaa then Excel-ka caadi ugu soo furmi karaa aan edit garan karaa oo sidii aan u isticmaalay kan kale ayaan u isticmaali karaa enable hadaan idhaahdo imika waxaan ku edit garan karaa Excel-ki waa kan file-kaygu labadii tabna waa kan aad aragtaa computer-kuna ii dhex yaala imika file-kan hadaan soo tago imika documents-ka ama file explorer-ka then downloads-kan tago waa kan ay Google Sheets 01 ay ku qoran tahay okay download-kana waan aragnay waxaan samayn karnaa rename oo magacaan ka bedeli karnaa waxaan kaloo samayn karnaa inaynu tagno file waxaan samayn karnaa move inaynu folder geyno tusaale folder kale hadii move nidhaahno waxaad halkan ka dooran kartaa marka Google Drive-kaaga folder baad u samayn kartaa then folder-kaas ayaad ku move garan kartaa waxaa kaloo samayn karnaa shortcut ahaan baan Google Drive ku dhex dhigi karnaa add shortcut Google Drive hadaan idhaahno and then aan ka doorano my drive and add shortcut idhaahno then hadaan Google Drive-kayga imka galo aan my drive-kayga caadi u galo halkan waxaad aragtaa inuu shortcut igu soo kordhay file-ka magaciisa wata hadaan click siiyo ama double click wixii soo furi doona isla file-kii uu ii soo furi doona okay waxa kale oo samayn karnaa Google Slides-ka iyo Google Docs-kuna waa kala mid intaan imika sharxanay waan delete garan karnaa waxaan oran karnaa versioning baan u samayn karnaa versioning-ku waa in aynu save garayno current state-ka ama xaaladdan aan imika joogno
and then markaynu wax ka bedbedelno oo aynu ku soo noqono haddaynu doonayno inaynu sideenii hore ku noqono ama sidiisii hore ku celino saas versionska hore ayaan u save garaysnaa ayaan dib ugu soo celin karnaa name version current version baan odhan karnaa then waxaan odhan karnaa version kii koobaadba and then save baan odhan karnaa wayna save gareeyay versionka haddaan imika file tagno oo idhaahno version aan see all version history idhaahno waxaad aragtaa halkaa versionkii koobaad ayaa noogu jira datekii aad save garaysay waqtigii qofkii save gareeyay wixii oo dhan baad halkaa markaa ka arkaysa iyo qaabku ahaa documentkaasi markaa haddaan ka noqdo imika waxaan samayn karaa filekan intan oo dhanba waxaan samaynayaa delete gareey maybe formatkan waan bedelayba waxaan ka dhigayba midabka madow baan ku fill gareeyba qaabkiisi waan bedelayba and then haddaan xataa browserka xidho imika uu save garaysmay haddaan browserka xidhaba badkan waad ka save garayn kartaa ama si automatic uu save garaynaya haddaan imika iskaba xidho browserka kasoo qaad and then aan soo noqdo marka google aan soo galo chromekayga and then soo galo sheets.google.com aan soo galo oo aan ka doorto filekii imika aan ka shaqaynanay oo kana aan click siiyo waxaad aragtaa inuu markaa qaatay imika yani wixii u dambeeyaan ku sameeyay haddaan doonayo inaan sidiisii hore soo celiyo waxaan samaynayaa file then version history see version history then waxaan odhanayaa markaa versionkii koobaad baan ka dooranaya oo kana markaan ka doorto waxaan samaynayaa markaa restore this version baan click siinayaa and then restore ayaan click siinayaa sidiisii hore bay igu soo celinaya markaa dhaatadaydii waxaygii iyagoo sidoodii hore ayuu dib igu soo celinaya okay waxoogaa soo zoom gareeyo taasina waa iyaduna waa mid weeyaan waxaa kaloo iyaduna jirtaa in aynu samayn karno inaynu filekan ka dhigi karno offline mid offline lagu heli karayo inaynu detailskiisa ay karano inaynu samayn karno settingskiisa wax ka bedeli karano inaynu bedeli karano print aynu daabici karano xaashi yani aynu u daabici karano anything aynu u samayn karano anything loo samayn karayo excel sheet kan waan ku samayn karano way fileka waan ka gudbayaa editkan ayaanu tagayaa editkan waa undo waan garanano iyo redo cut waan garananaa copy waan garananaa paste waan garananaa oo horaan soo baranay Google Slides iyo Google Docs kan soo baranay base kani wuxuu wataa special values only base special kani wuxuu wataa values only tusaale ahaan haddaan imika soo kanaynu soo koobiyeyno statuska and then aynu nidhaahno copy control C baad taaban kartaa ama edit baad oran kartaa copy baad oran kartaa halkan u dambaysa aan tagno waxaan siin karnaa control V ama waxaan siin karnaa paste laakiin muxuu wataa imika design-kii halkaa uu ku watay sidaas la mid ah halkan tago oo idhaahdo edit then aan idhaahdo paste value only wuxuu dhigi karaa yani qaabkii faaligii oo kaliya uu dhigi karaa waxaan samayn karaa format only baan hada siin karaa special formatka oo kaliya ta midabka backgroundkaas oo kaliya uu dhigi karaa formula only baan oran karaa formulada kaliya soo koobiyay ayaan oran karaa wax badan ayaan markaa samayn karaa ayuu wataa markaa editkani gaar ahaan base special kani intaan iska saaray imika waxaan samayn karnaa sidoo kale viewgan waxaanu samayn karnaa in aynu formula barka oo ah qaybtan markaynu halkan tagno waxaanu arkanay formulada ayay noo soo gelisay halkan kuwan oo kale markaan click siino cell kasta waxa noogu jira ayaa nooga soo baxayay waxaanu samayn karnaa in aynu iska qarino showda hadda tagto viewga inta tagto showda tagto formula barka tigta ka qaado waxa qarsoonaysa formula barkii haddaan mar labaad ku noqdo on formula bar click siiyo way ii soo gelaysaa waatan halkan igu jirta waxa kale oo samayn karnaa view baan tagi karnaa show grid lines kan laymankan hareeraha laymankan oo dhan waan iska qarin karayaa view baa tagaysaa waxaad oranaysaa show grid lines kan ood ka saaraysaa and then xaashi caadi u cad ayaa meeshii kaaga soo baxaysa haddaan zoom out waxooga idhaahdo xaashi cad oo aan wax grid lines lahayn ayaa meeshii kaaga soo baxaysa haddaan view ku noqdo mar labaad show aan grid lines click siiyo laymankii ayaa mar labaad ku soo noqonaya waxa kale oo samayn karnaa in aynu samayno haddaan soo zoom gareeyo again mar labaad markaan imika scroll garaynano waxa qarsoomaya qaybtaas sare inaga qarsoomaysaa yani halkan wixii looga jeeday course maadadaas course-kaas waxa ma garanaysid wixii halkan looga jeeday ma garanaysid sideed qaybta ka dhigi kartaa mid taagan
insert waxaad tegaysaa view-ga freeze kan ayaa tegaysaa freeze one row waa row-ga koobaad aad joojinayso mid taagan ka dhigayso freeze waxaan odhanayaa one row row-ga koobaad waa taagnaanaya haddaan imika scroll aan hoosta u sameeyo ama hoos u dhaadhaco kaas mar walba isagoo halkaas u taagnaanaya halkaa kama dhaqaaqayo taasina waa freezing waa inaad freeze samayso waxaad tegaysaa view then freeze two rows baad ka dhigi kartaa laba row baad joojin kartaa maybe imika labada koobaad maxamedka iyo ka sareeya waan joojinay waxaa kaloo samayn karnaa yani freeze one row kaliya ka u sareeya baan joojin karnaa sidaas si lamid ah waxaan joojin karnaa columnska aynu freeze ku samayn karnaa view baan teganaa freeze one column baan odhan karnaa columnka koobaad haddaynu markaa imika dhinacan scroll garayno columnka koobaad waa taagan yahay mar walba si kasta aadaan xataa usoo zoom karayno kaa koobaad isagu waa taagnaanaya si kasta aadaan u zoom karayno kaa koobaad waa taagnaanaya waxaan kale unba qarqarsoomaya kaasina waxa weeyaan waa freeze-ka view-ga intaasaynu ka gudbi karnaa grouping baad samayn kartaa oo tusaale ahaan dhowrkan qof maybe waa group highlight garaynaysaa and then waxaad samayn kartaa view waxaad odhan kartaa group baad odhan kartaa then intaa wuxuu ka dhigayaa maxay group ayuu ka dhigayaa one group ayuu ka dhigayaa aynu column-kan aynu freeze garayna aynu ka saarno intaas wuxuu ka dhigayaa maxay group ayuu ka dhigayaa haddaynu dhahno waxoogaa zoom out boqol konton kale aan ku celino and then aynu intan highlight garayno aynu dhahno marka view group aynu click siino then aynu ka doorano marka kan aynu click siino intaa wuxuu ka dhigayaa group dan waan qarin karaa plus aan click siin karaa wuu soo saari karaa hide aan soo saari karaa group kan kale isagana waan dooran karaa waxaan odhan karaa view group isagana waa group kale ayaan ka dhigi karaa and then waxaad arkaysaa marka laba group baan saa ku haystaa kana marka maxaa loo isticmaalaa grouping kana waa loo isticmaali karaa zoom ka waan aragnay full screen kana waa inuu kaa qariyo menu iyo waxyaabaha markaad full screen gasho escape keyga ayaad kaga bixi karaysaa button-ka kaaga muuqda ayaad kaga bixi karaysaa inaha horaan isla soo aragnay waxaan u gudbanaa insert waa inaad wax soo geliso insert waxaad soo gelin kartaa cell aan halkan taagan imkaan insert ilaahdo and then cell aan doorto down iyo right labadaba ka soo gelin kartaa click baan siiyay wuxuu ku soo daray hal cell buu ku soo daray waxaan noqonayaa waxaan ku soo dari karaa row-ga above baa doonaysaa mise below haddaan idhaahdo above imika kaan taaganahay korkiisana row ku soo dari and then waka waxaan samayn karaa sidoo kale kan ayaan row dushiisa ku soo dari karaa insert baan odhan karaa waxaan odhan karaa sidoo kale rows above xaggaa sare ayuu mid ku soo daray soo aragto waxaa kaloo samayn kartaa column baad ku soo dari kartaa halkan ayaan dooran karaa kanoo kale ama kanoo kale ayaan dooran karaa and then waxaan odhan karaa insert and then waxaan dooranayaa marka cells ama columns one column left ayaan dooranayaa hal column buu dhinaca leftiga uga soo daray markaad column ku soo darto formuladiina way isbedelaysaa la soco marka waka column waan ku soo dari karnaa row waan ku soo dari karnaa cell waan ku soo dari karnaa inaan saarno markaan doonano row ama column just halkan u sarreysa ayaan doorananaa right click baan siin karnaa waxaan odhan karnaa marka halkan waan ka soo dari karnaa se waxaan kaloo samayn karnaa halkan aynu intaan right click nidhaahno delete column baan odhan karnaa rowgan isagana click baan siinanaa then waxaan odhan karnaa delete row sidaasna waad ku saari kartaa sidaan imika ugu soo daranay si lamid ah right click baan odhan karnaa insert baan odhan karnaa cells insert column iyo insert row labadaba waan samayn karnaa cellna waad delete garan kartaa column waad delete garan kartaa rowna waad delete garan kartaa sidoo kale edit history waad eegi kartaa link halkan waad ka soo gelin kartaa waxyaabo badan oo kale oo halkan insert aan ku qaban karanay ayaad xaggaana ku qaban karaysaa inaad right click tiraahdo waxaa kaloo samaynanaa imika sheet baan ku soo daranaa imika laba sheet baan haysanaa mid saddexaad baan ku soo daranaa ka mid saddexaad ku soo daray sheet 3 waxaan u bixinanaa results waxaan oran karnaa maybe advanced ama results bar ama results 2 oo kale isagana kaasaan ka dhiganaa sheet cusubna saa ugu soo dari karaysaa waxaan doonaynaa inaynu imika ku soo darno ama aynu gudubno chart waxaan ku soo daranaa imika chart ama chantus kaasoo ku saabsan inta ardayda baastay iyo inta dhacday okay haddaan rowgan iska saaro rowgan ugu sayda right click baan oranaya delete row waxaan doonayaa inaan qaybta statuska aan inta boqolkiiba dhacday iyo waxyaabaha inaan ku sameeyo chart
waxaan sameynayaa waan highlight gareynayaa column-kaas oo dhan ayaan highlight gareynayaa markaan highlight gareeyo waxaan tagayaa insert waxaan ka dooranayaa chart markaan chart ka doorto waxay soo bixi doona maxay charts ayay soo bixi doona chartka ugu horeeya soo baxay waa kan xagan waxa iga soo baxay chart editor ayaa kugu soo baxaya ama markaad chartka saa ugu soo dartaba waa uu soo baxaya chart editor-kan wuxuu leeyahay laba qaybood qayb customize la yiraahdo oo chart-kan style-kiisa wax kaga bedbedeli karayso haday qoraal ka noqoto haday colors ka noqoto iyo set up baad haysataa set up kuna waa inaad chart-kan laftigiisa bedesho tusaale qaabkan uu yahay ma mid kale ka dhigto bar chart oo kale bar yani aad bedesho line graph oo kale aad ka dhigto halka customize uu colors oo kale yahay customize baan ku horeynaa ama set up hadaan ku horeyno waxaan bedeli karnaa hadaan soo furno halkan chart type-ka imika column chart bay noo dooran hadaan soo furno waxaan dooran karnaa kan oo kale qaabkan ayuu noqonayaa bar chart waxaan dooran karnaa kan oo kale qaabkan ayuu noqonayaa waa line chart waxaan dooran karnaa kan oo kale qaabkan ayuu noqonayaa waxaynu dooran karnaa kan oo kale qaabkan ayuu isaguna u noqonayaa maybe waxaan doorananaa kan ayaan ku daysananaa amaba waxaan ka dhiganaa kan ama kan aad ka dhigi kartaa hadba ka aad jeclaato ayaad ka dhigi kartaa anigu kan ku daysanayaa kan ayaan ka dhigtay imika waana bedbedeli karaya colorskiisana kale ayaan bedelayaa imika waxaan u gudbay qaybta customization-ka waxaana ka dhigi doonaa color lamid ah color-kana kuwaan ku isticmaalay maybe kan oo kale ayaan click siinaya markaan click siiyo customize-kan ayaan tegaya customize-kan markaan tago halkan waxaad haysataa chart style-ka waxaad haysataa oo background color-ka oo kale tusaale background-ka dambe theme-ka uu isticmaalayo ama font-ka oo kale tusaale ahaan waxaan ka dhigi karaa farta waan bedeli karaa fartaas waxaan ka dhigi karaa waxaan ka dhigi karaa Georgia waxaan ka dhigi karaa Roboto waxaan bedeli karaa background color-ka tusaale ahaan black hadaan ka dhigo aragtaa waxaan ka dhigayaa imika kan oo kale waxaan bedeli karaa sidoo kale border color hadaan sameynayo waxaan oran karaa chart-kan waxa uu sameeyaa borders hareeraha ugu sameynaya ama number oran karnaa sidoo kale background-kana number oran karnaa chart-kan fiisu inoogu soo muuqdo just laakiin si imika inoogu soo muuqdo hoos baan la dhaadhacanaa halkan oo sana teganaa drag and drop baan siinanaa grid lines-kan xagga dambe ka muuqdana waxaan tegnaa view horaan soo baranay show grid lines-kan waan iska saarnaa okay chart-kan waan ku haysanaa imika chart-kan waxaan ku sameyn doonaa in aynu color-kiisana kala click baan siinanaa then color-kan waxaan ka dhiganaa maybe waxaan ka dooranayaa marka color-kan oo kale ayaan ka dooranayaa oo ka u eg casaankana waan dooranayaa waxaan isagana ka dhigayaa ka soo qaadba maybe kaas ayaan ka dhigayaa marka qoraalkan waan bedeli karaa kan kale waan bedeli karaa fartiisa waan bedeli karaa wax walba waa aan bedeli karaa marka qaabkaasna waa qaabka chart loo soo geliyo chart-kana loo bedelo adigoo insert-kan isticmaalaya button-kana waa isticmaali karaysaa oo nigi lahaa button-kan waan soo noqon doonaa button-kan iyo kani waa isku mid waxaa kaloo soo gelin kartaa image xagan sare haddaan imka tagno waxaan kusoo darsanaa one column one more column baan kusoo darsanaa xagan sare ama one more row baan kusoo darsanaa xagan sare row baan kusoo darsanay waxaan soo gelin doonaa sawir oo kale horta style-kiisan imika uu qaatay waan ka saaranaa waxaan ka dhiganaa mid caddaana waxaan iska teganaa xaggan banaankan ayaan click siin karnaa markaynu click siino waxaan odhan karnaa paint format-ka soo qaad and then waan wada highlight garaynaa intaasoo dhan style-kii halkan ayuu qaatay markaa ama style-ka caddaanka ayuu qaatay waan yar weyneynanaa rowgan markaan weyneyno rowgan waxaan soo gelin doonaa logo oo kale ama qoraal aan ku qori doonaa qoraal baan marka koobaad horta ku qoraya qoraalkan ku qoraya waxa weeyaan korodhso aqoon college tusaale ahaan fresh students grades and then waxaan doonayaa qoraalkani imika halkan yaala inuu ilaa cirifkaas oo kale u gaadho fartana waan yar waaweyneynanaa centerkana uu noqdo marka intan ayaan wada highlight garaynanaa dhammaanteed markaan highlight garayno waxaan ka dhiganaa merge baan ku sameynaa merge then cirifkan u tegay waxaan odhanaa center align vertical alignment waxaan odhanaa center align fartana waxaan ka dhiganaa waan waaweyneynanaa waxaan ka dhiganaa ilaa 18 font-kana waxaan ka dhiganaa maybe waxaan ka dhiganaa taas oo kale waxaan ka dhiganaa bold already waa bold ama bold weyn ka dhignay color-keegana waan bedelanaa farta color-keegana waxaan ka dhiganaa color-kan in halkan hoose ku isticmaalnay ayaynu ka dhiganaa
halkan ayuu style ku sii jiraa on dooranana kan paint format kan qaadanana kan waxaan siinaa click and then okay okay waxaan samayn doonaa inaan labadan cidhif oo kale soo gelino sawir insert baan tagayaa waxaan odhanayaa image insert waxaan odhan karaa image in cell oo cell soo geliya cellskana waan garananaa ama offer cellska dushooda offer cellskana ayaan dooranaya waxaan samayn karaa inaan computerkayga ka soo geliyo inaan ka soo geliyo camerada inaan by URL isticmaalo inaan isticmaalo Google Photoska inaan isticmaalo Google Drive kan isticmaali doonaa oo sawir igu jiraan soo gelin doonaa then Google Drive baan tagay wixii soo saari doonaa wixii sawir igu jiray tusaale ahaan loogama kala ayaan click siinay insert baan idhi then waxay soo geli doonaa sawir ayaa ii soo geli doonaa then waa kan sawirkan ii soo geli sawirkan resize ma ku sameeyay waan yarayni halkaas ayaan dhigay waxaan ka sameeyay copy waxaan edit and then waxaan copy and then edit paste ama control C control V waxaan sameeyay kan kale waan soo jiiday cidhifkan ayaan geeyni and then waka mika waxaan sameeynay datadii waan qurxinay meeshii waan qurxinay haddaan iminkan dhahno control iyo P oo print ama file tagno aan dhahno print waxaad aragtaa inuu qaabka soo bixi doono halkan waxyaabihii chartkii wixii weeyaan laakiin intaas sare waxaad aragtaa qaabka ay soo bixi doonto haddaan daabac isna dhahno ayaad aragtaa qaabkan ayuu soo bixi doontaa qaabkaas ayuu soo bixi doontaa okay aan ka gudbanaa waxaanu samayn doonaa insert kan aynu kusii socon doonaa drawing baan gudbanaa drawing waa inaad wax sawir adigu aad sawir samayso oo aad soo geliso illustration adigu iska leedahay oo kale and then drawing kan oo kale click siino insert and then drawing kan click siino halkan waxaan ku sawiri karnaa markaa shay inagu aynu markaa design-kiisa leenahay ama sawir aynu samaysan karnaa tusaale ahaan hadaan sooba geliyo kasoo qaad maybe shape aan soo gelinayaa shape kan ayaan soo geliyey kan ayaan soo geliyey and then waxaan sameeyey colorkiisana waxaan ka dhigayba kan ayaan ka dhigayba khafiifka waxa kale oo sameeyey mid labaad shape labaad and then isagana bartan ayaan ku darow gareeyey okay isku dayay inaan drawing sameeyo anigoo isticmaalaya maxay Google Drawing okay control baad qabanaysaa ama shift baad qabanaysaa then markaad inaad resize kala samayso doonaysid and then ayarku markaa si siman ayuu kugu sameynaya size-ka kan ayaan doorananaa and then control C control V baan odhananaa waan yaraynaynaa markaa cidhifyadiisan kana waan yaraynaynaa kana waan u yar dhaweynaynaa then waxaan odhanaa filkana white ba waxaan odhananaa kan xoogaas yar durqi waxaan soo qaadan karnaa text box bartan ayaynu dhigi karnaa waxaan odhan karnaa tusaale ahaan kororso oo weliba wada capital ah casekeedu kororso in waan wada highlight gareynaa control A farta waan yaraynaynaa intaan yarayn karno boldna waan ka dhiganaa and then kana waan yaraynaynaa text boxkan halkaas ayaan dhiganaa and then okay centerkii baan dhignay waxa kale oo samaynaynaa I think waxaan u ekaysiinay laptop waxaan samaynayaa kan kale colorkiisa filka waxaan ka dhigayaa kan oo kale si ay isugu ekaadaan kan ayaan koobiyeysanaya mar labaad control V baan odhanayaa control C control V and then waxaan samaynayaa shift anoo haya ayaan drag and drop samaynayaa ama dragging ku samaynayaa resizing weliba and then kanina waan sanayaan yaraynayaa dhifkana waan ka soo yaraynayaa ogaa in yar oo kooban oo badnayn ayaan dhinacna ka soo yareeyey kana waxoogaa dhifkan ayaan soo yarturqinayaa marka okay maybe ogaa marka okay intaas ayaan imika samaynay ogaa saan yar turqi kana waxaad samaysaa ogaa saan yar weynee intaas ayaan imika samaynay
waxaan samaynayaa ku xigsiinaya inta in aan ku soo daro waxoogaa ma habaysna laakiin waxaan waqti yar oo dhaqan ku bixinano kan ayaan mar labaad doorananaa control iyo c control iyo v sizekiisa ayaan aad u yareynaynaa aan soo yareynaynaa kan halkan ayaan keenaynaa maybe sana oo yareynaynaa waxoogaa and then kaasina waa touch barkiiba kasoo qaad isaga ayaan mar labaad control iyo c control v odhananaa and then waxoogaa kan hoos baan soo yarjiidanaa kan ayaan halkan geynaynaa waxaan ku sameynaynaa maxay sizekiisa ayaan yareynaynaa aad ayaan u yareynaynaa and then waxaan ku sameynaynaa sidan ayaan yareynaynaa marka waxaan kusoo dari karnaa line yar waxaan kusoo dari karnaa maybe qaarkooda yaala line yar marka again kan ayaan koobiyeysananaa control iyo v halkaas u sarreysa ayaan geynaynaa kan ayaan xoogaa iska soo yareynaynaa kan ayaan dhinaca u durqinaynaa waan yareynaynaa xoogaa aad ayaan yareynaynaa dhifkan ayaan u yar durqinaynaa and then waa batankii power batankii kaasina keyskiina waan samayn karnaa iyaguna waa symbol waan samayn karnaa marka maxaad samaysay drawing adigu iska leedahay sawir adigu dhisankiisa iska leedahay ayaan samaynay marka adigoo isticmaalaya Google Sheetska, Google Docska iyo Google Slideska intaba waxaad samayn kartaa maxay drawing adigu iska leedahay ayaad samayn kartaa oo aad ku diyaarin kartaa marka imika drawingkaas ayaan samaynay keyski baa ka dhiman laakiin waan ku dari karnaa iyagana waxaan u gudbanaa drawingka waan ka gudbanaa waxaan u gudbanaa functionska waan aragnay waa kuwii aan kusoo aragnay markii aan joognay qaybtan percentage-ka maximum-ka average-ka total-ka sumkaan soo aragnay kuwaas weeyi waa buttonka halkan noogu yaal weeyaan sumka average count waa laftigiisa waan isticmaalnay maximum minimum value aad buu badan yihiin laakiin dhowrkaas sare ayaan ka gaadhnay waxaynu samayn karnaa sidoo kale link waan aragnay checkbox baan samayn karnaa checkbox aynu samayn karnaa checkboxkaasoo kale waxaynu odhan karnaa attendance system oo kale ayaan samayn karnaa attendance system ayaan samayn karnaa inagoo isticmaalna checkboxka tusaale ahaan ardaydan ayaynu magacyadoodan iyo aynu koobiyeysan karnaa liiskoogan and then waxaynu odhan karnaa control iyo c ama edit baan tegi karnaa oo copy baan odhan karnaa kan aynu result u bixinay hadda ayaynu waxaan u bixinaynaa attendance oo kale attendance then waxaan odhanayaa bartan ayaan ku paste garayn karaa markaan bartan ku paste gareeyo waxaan odhan karnaa maybe waa week 1 ba attendance-kani marka waxaan odhanayaa halkan waa Saturday oo kale Saturday kana waa Sunday then labadan ayaan wada highlight garaynayaa dhinacan ayaan u jiidayaa dhinacan u jiiday isaga inta kale dhamaystiraya ilaa Friday laakiin ilaa Friday uma baahnin just waxaan u baahanahay kaliya labadan sare waan iska saarayaa Friday-ga waxaan ka dhigayaa kuwana Saturday and then Sunday si uu xarafka u horeeya capital uga dhigo waan dooranayaa again mar labaad ayaan san samaynayaa ama aan fill handle-ka isticmaalaya isaga ayaan kale dhamaystiraya marka maxaad aragtaa imika halkan in aan samaystay maalmihii oo kale intan sarana waan isku dul furayaa maybe intana waa aan isku dul furanaa intan waa week 1 oo kale attendance-koogii week 1 then waxaan odhanayaa horizontal alignment center align waxaan odhanayaa borders na u samee kan ayaan tegi karnaa then waxaan odhan karnaa paint format ka qaado ama style-ka intanna wada u samee borders kan ayaan double click siin karnaa si uu isugu filaysiiyo intan bannaan and then waxaan samayn karnaa marka intan ayaynu highlight garayn karnaa markaynu highlight garayno waxaan siin karnaa background color ayaynu siin karnaa fill color ayaynu siin karnaa kan oo kale ayaynu siin karnaa waxaynu samayn karnaa intan sarana waxaan samaynaynaa waxaan siinaa iyagana midab gaara midabkan oo kale ayaan siinanaa colorka ku dhex qoran fartana waxaan ka dhiganaa white ba and then kaasarana waxaan ka dhiganaa white-kiisa aan ku celinaa okay intaas ayaan imika haysanaa waxaan doonaynaa in aynu ka dhigno ardaydan in aynu halkan absence-ka kala xisaabino week-gaas kale
dhowr week waan ka dhigi karnaa laakiin week inaan ku tijaabinayna imika absence oo kale aan xisaabinayna ardaydan waxaanu ama buttonka check boxka isticmaalana waxaan odhanaa kan ayaan click siinana and then waxaan odhanaa paint formatka soo qaad kan ayaan click siin karnaa and then formatka halkana ka qaad intan hoosena formatka sii okay waxaan odhanayaa kan waxaan u samayn karnaa check box baan soo gelin karnaa waxaan click ayaan siin karnaa insert and then check box baan soo gelinay kuwan ku xigana sideen ugu dari karnaa markaa iyagana waan wada drag and drop baan sameynaa waxaan jiidanaa drag baan sameynaa sanaan u jiidanaa then waxay nagu wada daray kan ayaan soo qabanaa hoos baan u jiidanaa waa uu istana nagu wada daraya kan uma baahnayn nagu daray absence-kan kan iyaga waan ka saaranaa waan hayda garanaa delete baan siinanaa marka halkan maxaan ku haysanaa ardaydan attendance-kooda oo kale list lagu xisaabinayo computerized haddaad kan aad click siinaysaa Sunday-gan oo kale ma joogaa click baad siinaysaa maalinta kale ma joogaa click baad siinaysaa then waka waxaad samayn kartaa in aynu nidhaahno absence-kan ha xisaabiyo inta ashyakan click la siiyey tigta la saaray ma ahayn inta kale ha xisaabiyo si aan taa u samayno markay check-tan saaran tahay halkan waxaa kaga soo baxay formulada true markayna check to saarnayna kan kale hadaan doortana waa false taasina oo ka faa'iideysanayna in if else isticmaali doona ama if ayaynu isticmaali doonaa function kale waxa jirta la yiraahdo haddana horta imika tijaabino if baan isticmaali karnaa if haddaan isticmaalno waxaan odhan karnaa haddii maybe kan oo koobaad oo keliyaati uu yahay true hadduu yahay then waxaan odhan karnaa waa present ama waa joogaa intaas soo qoro haddii kalena habsan ku qor intaa ku qor and then haddaan intaas kaliya samayno oo inta siino waa habsan waa tig lama saaro haddaan tig click siiyo waa joogaa buu soo qoray haddaan ka qaado waa habsan okay marka taana waan isla fahnay waxaan marka ka faa'iideysan doonaa xabadaas ama functionska xakan sare nagu soo qormaya ama data xakan sare nagu soo qormaysa ee booleanka iyo waxaan ku wada faa'iideysan doonaa mid kale oo la yiraahdo count oo inoo tirin doonta marka function isku keenaysa labadaas ayaa jirta oo la yiraahdo maxay count if la yiraahdo ayaa jirta mid la yiraahdo count if ayaa jirta oo labadaas isku keenaysa waxaan sameeynaa count if ayaan qoranaa haddii column-ka laga soo bilaabo ama salka ilaa iyo salka range-kaas yani halka ilaa halka aad ku aragto false baad tiro aad gelinaysaa aad tirada increment ku sameynaysaa ama aad kordhinaysaa enter baan siinayaa iminka waxaan haysanaa 4 1 2 3 4 maybe range-kaas waxaanu nidhi ilaa iyo G3 iyo C1 okay haddaynu halkan kaliya intaan siino waxay noqonaysaa 4 haddaan kala click siino 3 kan kale haddaan click siino 2 kan kale haddaan click siino 1 kan kale haddaan click siino waa eber marka maxaynu xisaabin karnaa inta cisho qof bani maqnaa isaynu ku xisaabinanaa hadday uu cisho maqnaa in tigtu saarnayn hal cisho halkan ku soo qormaysa hadduu 2 cisho maqnaa 2 ku soo qormaysa 3 hadduu maqnaa 3 baa ku soo qormaysa kuwan kalena saasaan ugu apply gareynana drag and drop baan siinana formulada then waa ka kuwani shantaba wax tig la saaray kuma jiraan shanta cisho way maqan yihiin kan ayaan click siinana 4 bay noqotay kan kale 3 maalintan kale waa joogay 2 maalinta kale waa joogay 1 maalinta kale waa joogay okay marka saasna way aad uga faa'iideysan karaysaa sidaana way uga faa'iideysan karaysaa marka attendance un maaha waxyaabo badan oo aad u badan oo kale ayaad ku isticmaali karaysaa waxyaabo aad u badan oo kale ayaa aad ku isticmaali karaysaa waynu tagi doonaa xataa waxaan ka dhigi karnaa haddii buttonkan tigta la saaro formatka caynka iyo caynkaas waxa iyo waxaas ha dhacaan yani condition aynu ku xiri karnaa balse iminka intaas ayaan kaga gudbayaa taana waxaa kaloo aynu samayn karnaa insertka ayaan tegi karnaa waxaan aragnay imika check boxka waxaan u gudbanaa comment waan garananaa note tusaale ahaan halkan aad doonaysa inaad note yar ku qorato waxaan teganaa insert note maybe halkan waxaad markaa note-ka doonaysay ku qori kartaa this is my note and then okay note-ka halka ku qoranaysa marka mouse-ka dulgeysa salka note baa halkan kaaga soo baxaya note baa halka kaaga soo baxaya kaasina waa note way insert waan ka gudbanaa waxaan u teganaa formatka oo ah qurxintii in wixii la qurxiyo oo wax laga bedbedelo waxa ugu horeeya teamka
teamka ayaad bedeli kartaa afartan iyo waxaa dhan bedeli kartaa haddaynu teamiska mid kala doorano waxaad aragtaa inay fartu isbedelayso mar walba mid kala doorano waxaad arkaysaa inay isbedelayso again kan kale haddaan doorano way isbedelaysaa fartu colorsku isma bedelayo maadaama nagu simani wada colorskana soo gelinay laakiin hadday black color ahaan lahaayeen ama horta aan doorano aan wada highlight garayno and then aan colorkan siino ma qaadanayo sababtuna u qaadanayo waxa weeyaan inaga ayaa simani wada u gelinay markii hore laakiin haddaynay color marka hore lahayn ama teamina marka hore wadan simani wada si automatic ah kan wada u gelin karaysaa waayahay kaasi waa teamska sidoo kale waxay nagu jira formatka inaad numberskii hore u soo aragnay yani waa qaybtan weeyaan halkan aan ku soo aragnay inta badan sharxanay currency-ga lacagtaanu yani qaabkan doona ka dhiganay markaynu basicskan aynu joognay aynu ka bedbedelanay weeyaan formatkan qaybtan numbersku textigani waa boolkii italiga underlinekii intan weeyaan alignmentkani waan soo aragnay waa labada button baa inaga filan oo intan isu kala baxaya text wrapping waa buttonkan weeyi isagana waan aragnay rotationkiisna waa kan oo waan aragnay font size-ku waxa weeyaan waa isaguna waa button kan waa buttonkan weeyaan waa buttonkan font size ka bedeli karayso isagana waan aragnay conditional formatting kaas ayaan tagnaa haddana attendance-keena ku noqono waxaan oran karnaa haddii uu ardaygu hal cishaba maqnaa hadduu cisho kaliya ta maqan yahay casaan geli meesha geli laba cisho hadduu maqan yahay casaan geli yacni saasaan oran karnaa waxaan tagnaa selkan doonayna inaan ku apply garayno ama meeshan doonayna inaan ku apply garayno waxaan tagnaa format conditional formatting waa shardi ku xidh inaad formatting aad yani u samayso deetana halkan waxaad haysataa conditional formatting rules baa halkan kaga soo baxaya columnka lagu apply garaynayo waa kii ama selka lagu apply garaynayo waa h3 waa kan weeyi rulku markaa waa maxay haddii unu madhnayn ba maya waxaan dooranaa kan ayaan soo furanaa waxaan ka dhigi karnaa halkan haddii numberku is greater than hadduu ka badan yahay maxay maybe hadduu ka badan yahay hal hadduu qofku 2 maalmood kale maqan yahay 3 maalmood kale maqan yahay casaan ku apply gare haddii kale waxba ku apply gareyn hal cisho hadduu qofku maqan yahay waxba ku apply gareyn hadduu laakiin wax cisho ka badan uu maqan yahay ku apply gareyn midabka waxaan ka dhigi karnaa halkan ayaan ka dooran karnaa casaan afartana waxaan ka dhigi karnaa bold waxaan italicna waan ka dhigi karnaa waliba waxaan ka dhigi karnaa afartana colorkeega caddaan baan ka dhigi karnaa backgroundkii waa casaan fartina waxa weeyaan marka caddaan bay noqonaysaa dhan baan odhanaynaa kaa koobaad kuma apply gareyn waayo waxa shantii cisho la jooga haddaan markaa maalin ka qaadno one bay halkan noqonaysaa weli waa caadi haddaan halkan ka qaadno waxay isku bedeshay meesha casaan bay isku bedeshay laba cisho markaa qofkani maqnaa hadduu hal cisho maqan yahay waa caadi laba cisho hadduu maqan yahay iyo wixii ka badanba midabkaas ayuu yeelanaya kuwan ka hooseysay inuu apply gareynaa just waxaan qabanaynaa fill handle-ka waan soo jiidanaa and then waka wada apply garey kaasna wada jooga kuma uusan apply gareyn rule kale ku dari karnaa waxaan oran karnaa haddii uu qofku maqan yahay hal cisho waxaad ka dhigtaa casaanka reerka ama aha kan huruud baynu ka dhigi karnaa ama warning digniino kale then waxaan oran karnaa kuwana ku wada apply garee and then formulada haddaynu iminka kan idhaahno qofkani wuxuu maqan yahay hal maalin waxa weeyaan huruuddaas soo saaraya hadduu 2 maalin maqan yahay waa casaan hadduunu cishana maqnayna waa caadi markaa sidaasna rule kale waan kusoo dari karnaa waxyaabo badan baan markaa aynu samayn karnaa waxyaabo aad u badan aynu samayn karnaa waxaan u gudbayaa in aan tagno alternative current-kani waa inuu meeshaba colorkeega u bedelo hal mar color kale aynu ka dhigno tusaale color kanoo kale aynu ka dhigno oo aynu gebigeegaba bedelno waxaa kaloo aynu haysanaa clear formatting oo formatka oo dhan ka saarna meesha sidii hore ku celino taana waan haysanaa qaybtaasina waa maxay waa formatting wixii aad format garayso okay marka formatkana sidaas ayaynu kaga gudbanaa daytada ayaanu taganaa daytada waxyaabo badan baan ku samayn karnaa waxaynu ku samayn karnaa sorting inaynu tusaale kale habayno waxaynu samayn karnaa filtering then tusaale kale ku habayno datadii wixii u horeysiin doonaa
wuxuu ugu dambaysiin doonaa wixii sada. waxaa kaloo samayn karnaa inaynu habayno horta columnka aynu doonayno aynu teganaa kanoo kale aynu doonayna columnkaas aynu dooranayna then waxaan odhanaa data waxaan habaynaynaa a to z wuxuu habaynaya markaa a to z ayuu habaynaya by numbers baynu dooran karnaa waxaan odhan karnaa waxaad u habaysaa numberskan z to a oo kale then wuxuu ka bilaabi doonaa numberka id-giisu ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya ayuu u habayn doonaa waxaanu ka dhigi karnaa xaggan oo kale waxaan odhan karnaa absence aynu habayn karnaa waxaan odhan karnaa ardayga ugu absence yar loo soo hormari waxaan odhan karnaa absence to z kuwii zero ugu soo horreysiyay kuwii kale ayuu u dambaysiisay aragto marka waxyaabahaas oo dhan ayaynu ku samayn karnaa waa data qaybtaasi waxaa jira filter waxa la yiraahdo oo aynu samaysan karno haddii nimka sidiisa hore ku celinay maqnaatadan qaabkeedii hore waxaanu samayn karnaa filter waxa la yiraahdo waa buttonka halkan inoo yaala weeyaan waxaanu odhan karnaa waxaan tegi karnaa data waxaan odhan karnaa create filter markaad click siiso waxa halkan kaaga soo baxaya horta marka badan daatada doorato iminka just waxaan joognay columnkan oo kaliya ayuu filterka inaga soo saaray haddaan soo furno markaa waxa halkan inaga soo baxaya marka waxyaabo badan baa inaga soo baxaya oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan magacyadii dadkan columnka wixii ku jiray oo dhan baa inaga soo baxaya marka waxaan odhan karnaa dhowrka qof aan doonaa halkan ka select garayn karnaa dadka kale oo dhan waan hide garayn karnaa laakiin sidaa looma isticmaalo waxaanu tegi qaybteena resultska markaan tagno waxaynu odhan doonaa data horta waynu highlight garayn doonaa datadeenan datadan oo dhan aynu highlight garayni markaynu highlight garayno waxaynu samayn doonaa waxaynu tegi data waxaynu odhanay create filter markaynu dhahno halkan waxaa kusoo kordhaya markaa funnelkan yar baa kusoo kordhaya haddaynu soo furno waxaynu halkan markaa ka dooran karnaa dadkan by magac baynu habayn karnaa by condition baan ku xidhi karnaa ama waxaynu odhan karnaa tusaalaan qofka ay ka sarreyso gradekiisa oo kale aynu odhan karnaa is greater than uu ka sarreeyo maybe maadada islamic studyga uu 50 ka sarreeyo kaliya iyo soo saar waxaan kale waxaan odhanaya clear and then waxaan odhanaya okay then muxuu soo saaraya qof uu konton ka sarreeya kuma jiro baan filaya is greater than waxaan odhan karnaa maybe is greater than 50 select all horta ka dooro and then is greater than 50 and then okay waxay noo soo saaraya dadka dhaatadooda maadada islamic studyga ay ka sarreyso 50 oo kaliya inoo soo saaraya waxaanu dooran karnaa pre-calculustan kan waynu iska xidhi karnaa click baan siin karnaa and then waxaynu odhan karnaa ama waxaynu tegi karnaa halkan data then waxaynu odhan karnaa remove filter aynu odhan karnaa filterka dhan waan isku saari karnaa again waan kusoo dari karnaa waxaan tegi karnaa filter data and then create filter markaan idhaahno horta waa inaan daatada marka hore sii doorano in highlight garaysano in daatada highlight garaysano waxaynu odhan karnaa waxaad doorataa halkan data and then waxaad tidhaahdaa create filter waxaad ii soo saartaa ardayda baastay oo keliyata halkan ayaan soo furi karaa waxaan odhan karnaa ardayda baastay ama ardayda dhacday oo keliyataan doonaya okay baan odhan karaa labadii arday dhicidda ku qornaa oo keliyata ayuu soo saaray kuwii kale wiiga qarinaya marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa filterska datada inoogu jirtana qaybtani waa data analysiskii weeyaan data analysis ku samayn kartaa oo aad u badan data validation baad samayn kartaa data cleanup baad samayn kartaa oo suggestions ka saari kartaa wixii duplicate ka saari kartaa white space ka trimming ku samayn kartaa oo yareyn kartaa aad bay u badan tahay qaybtani aad bay u badan tahay xataa waxaad ku xidhi kartaa maxay big query waxaad samayn kartaa so inaha hore ayaa muhiima oo isla aragnay imika sheetkan ayaad protection ku samayn kartaa oo haddaan protect sheet idhaahno sheetkan cidi wax kama bedeli karayso waxyaabo badan baynu samayn karnaa toolskan extensionskan iyo helpkan sida loo isticmaalo waxaynu uga hadli doonaa cashar gaara ama muuqaal gaara oo aynu ku soo qaadan doono saddexdaba excel google sheetskan google docska iyo google slideska intaas ayaan ku daynaa muuqaalka maanta I hope inaad ka faa'iiday aadna maanta wixii ka dambeeya isticmaali kara sida google docs google sheets iyo google slides marka intaas ayaan ku daynaa muuqaalka maanta waad ku mahadsantahay daawashadaada thank you